له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. موضوع عندما عصنينا كورمه حنبحيي الطريق إلى الهدف. أنا الموضوع قلين آيات القرآن وحنو أخري يعني إلهي يبري عبشوين بدن بيسو قاري وقصة بصن أفكان كو هدله إن عيدي بقرن ويدي أف عربي كما هدله، لكن waxaan ka mid ah quraadii dadka akhriya ka mid ah, laakiin dadka ku hadla kaba mid malaab Soomaaligiina mooyi tuu iga noqday waxaan filayaa in badan cabashooyin badan inay soo gaadheen oo aan maanta iyo shalay toona bilaabmin muddo badan soo jiray ilaa xad yani dad kaasi samaaca lada daawadaynta iyo maadana ilaahay waxa laaliyo waxa sheegay waxba ka baanan garanay waxa dhibaato markaa inaan naxiiqo dadkuna waxaan wadaba wiila garan waayo ama aan idin gaarsiin kari waayo waa cajzi runtii igu jira markaa waa tamar darri inaan waxaan doonayay inaan sheegi kari waayo. waxaan filayaa bal in lay dul qaato layna cudur daaro haddaan fakadana in wax lay xasuusiyo. intaa haddaan dhaafo mawduuca waxaan u bixiyay alطariiqu ila alhadaf. alطariiq ila alhadaf, jidka loo marayo hadafka aynu doonayno. dad muslimiina baynu nahay, ilaahay iyo rasuulkiisii baynu rumaynay. waxaynu rumaynay kitaabka ilaahay subxaanaه wa tacaala uu soo dejiyey iyo sunnada nebiga calayhi الsalaatu wasalaam. waxaynu rabnaa inaynu kuwaa dib ugu celinno nolosheenna oo dhan, inuu noqdo nolosheenna waxaa hogaaminaya ilaahay iyo rasuulkiisu waxay sheegeen. laakiin waxaa muuqata in carqalado badan inaga hortaagayiin inaynu noloshoo dhan ku dabaqno mabda'a aynu rumaynay. waxaa markaa in badan shabaabku isweydiinaya war halkee laga baxaya. shabaabkii kaste ee aad aragto ama wiilkii kaste islaam u fakeraya, wiil iyo gabadhkuu doonaba ha ahaado, nin weeye nin yarkuu doonaba ha ahaado, qofka inuun isla ninkani dibbu wax ka garanaya intuu kuu yimaado wuxuu ku odhanaya maxaa la yeelaa wadanoo muslimiintii madaxa laga tumayaayo, xagga lagu madhay oo xagga lagu go oo bari iyo galbeed toona oo meellaba ma noola. kaan dunida kale oo dhan iska soo koobaana wuxuu ku odhanayaa war halkii aynu ka nimi maxaynu ka yeelnaa. nimankii Soomaaliyeed sidee bay u suurtagal tahay waa inagii dimuqraadiyad soo tijaabinay, ama ha la yidhahdee shaadhkeedaa la gashaday ama iyadii baa la tijaabiyey ha la yidhaahdee waa inagii shuuciyad soo tijaabinay. war xaggaan islaamkii u marraa in kitaabka la qaataa aad bay u fiican tahay. hadafkaasi xaggaynu u gaadhnaa. shabaab alxarakaat alislaamiyana ay dhammaantood waxay leeyihin waxaanu rabnaa inaanu kitaabka iyo sunnaha dhulka ka dul taagno oo dib u soo celino majdigii iyo sharaftidii uu lahaa islaamku, oo qofka muslimkii uu noqdo qof laga haybaysto oo cadaalad ku hoos nool oo dunida xaq gaadhsiiya. siday u dhacaysaa haddaba taasi? mabda'ii wuu yaallaa, kitaabka iyo sunnahaanu ku cadyi, laakiin sidaan u gaadhnaa? sidee baan mabda'a kan intaynu rafcinno maamulka u gaadhsiinaa? madalladan saree dadku uu hoos harhsanaya dowladnimo sidee baynu uga dhignaa mid islaamiya? see baa dadku islaam ku noqon karaa? dadku waa muslimiina, see buu islaam u dabiqi karaa? su-aashaa jawaabteedu way tarafyo badantay. cidbana sibay ula muuqatay, qofba sibay ula muuqatay. waana mas'alo aynu odhan karno ilaa xaddin ma waa mas'ala ijtihaadiya
masaa'ilka ijtihaadaadkuna weliba waa masale ijtihaadiyo ku dul wareegaysa alfalak siyaasi arrimaha siyaasadeed ku saabsan السياسة الشرعية مركا لاغا إسلام كان وحي كسر إسانتي الموازنة بين المصالح والمفاسد إن ليسوا قيمة مصالح دي مفاسد إن ليسوا قيمة ليسوا بالانس كريو أو وقت جاي ممكن تهي يحوق جايو باهنتي مركا لا هلنا إن دب لودجين مركا أنا صورة قلك أهين أما أنا kobcinoo gaadhin xadkii ay ku suurto gelaysay ama se aanay haysan darfiga ama waktigii ay suurto gelaysayna in loo kaadiyo haddii ay wax ka dhibaato badan imanayaan dabeetana waxay culimadu yidhaahdaan siyaasa sharciya waxa asal u ah bay yidhaahdaan mafaasidda waa almuwaazana bayna almasaalix walmafaasid oo la isdhinac dhigo labadaa shay taa macnaheedu waxay kaloo keenaysaa inaa ugu horeyn garataan inaanay wax qadaasa ah wax weyniya lahayn cismana aanay lahayn iyo dhowrsooni ragga afkaartooda iyo ijtihaadaadkooda khata in lagu dhici karo oo weliba aan odhan karna khata'a marka lagu dhacana iyadoo ay la socoto niya saalixa ama qasdi xasan isagoo jira in khata'a lagu dhici karo laakiin waataynu shalayta ka soo hadalleen nidhi قصدك صالح أي النية صالح يا إخلاص لا بد من بصيرة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وإن لا بد من بصيرة بيننا وين يشرتها أركتب بلادن أو وحنا ودن قيمين إسا تاسي وحي سبابي كرتابين لن إن حركة عالم كشرتوق وأن منحازين ونقنين أفعاشيدا inay isku dayeen inay weyneyna ama ceebayna ama se dhaleecayno ama se xataa amaanta ka badino laakiin tajaaribtooda inaynu ka faa'iideysano inaynan cidna yasin ee qof walba muslim oo ijtihaaday ama xaraka kasta oo islaami oo ijtihaaday tajaaribta ay gashay bal inaynu daraasayno waxa loo baahan yahay ijtihaadku mar waa dawr fikriya oo qofka maskaxdiisa jooga marna practical buu galaa yani waa la dabaqay marka la dabaqana natiijadiisa muuqata qofka muslimkii markaa wuxuu u baahan yahay inuu bal nataa'ijta tan si fiican u qiimeeyo oo haddii ijtihaadkii la ijtihaado uu khata'ay xataa oo la tajribeeyo tajribadii muuqatay inaan laga daba marin tajribada horta in la qiimeeyo oo la eego ma tajriba naajixa bay ahayd oo la raaci karo ma waxay ahayd experience la helay ama se tusaalahaasi la sameeyey ma tusaale saxa baa lagu daydo mise waa tusaalo qaladaad ka muuqdo maskaxdu waxbay qurxisaa marka hore sibay isboodsiisaa laakiin waxaa la arkaa in badan sida isboodsiinaysaa inaanu ka jirin waaqaca inaanu ka jirin marka wixii marka practical loo fuliyo ayuu qofku wuxuu arkaa sidii isboodsiinayay inaanay arrintu ahayn inay siyaabo kala yihiin wax badan oo aanu ku xisaabtamin inay soo baxaan wax badan oo moodayay inay saa noqonayaan inay soo baxdo taa macnaheeda waxaan uga jeedaa waxa habboon markaynu arrimaha kan ka hadlayno inaynu isku dayno inaynan qutri mucayana oo duruuf mucayana leh yani beled mucayan ama dhul go-an oo bii'ad go-an leh oo duruuf go-an iyo arrimo go-ani ku weegaaran yihiin oo qura intaynu isha saarno inaynan qaadanin inaynu isku dayno bal caalam alislaami oo dhan min mashriqi ilaa maqribi inaynu aragno inaynu isku dayno tajaaribta ay sameeyeen dadka muslimiinta ahi muslimiintu waxay sameeyeen tajribo dagaal ma aha kuwii hore oo dhan ka kaalay waa intii ay khilaafada islaamiga duntay baan ka warramaya مثلا علماء المسلمين في مصر فلسطين bay ka dagaalameen مثلا علماء المسلمين في سوريا ka dagaalameen مثلا المسلمون في أفغانستان bay ka dagaalameen muslimiinta Filibiin ku nool Filibiin bay ka dagaalameen Kashmir kuwa jooga Kashmir bay ka dagaalameen dhul badan oo muslimiinta kamid ah ayaa dagaal ka dhacay dagaaladaasi waxay u dhaceen duruuf kala gedisan bay ku dhaceen
haddaad mid intaad buntato un adigu kaa istusiso waa yaro qaldantay laakiin waxay ku wada dhaceen duruuf kala gedisan midba ka kale ka gedisnaa waa kow waxa kaloo jira tajaarib kaloo islaamiya oo janib siyaasa ku saabsan oo ragga badhay u arkeen in majaalis النيابة la galo oo xagga baarlamaanka la rooro oo culamo waaweyn fatwootay sida Bilal al-Mawdudi iyo markii hore diiday markii dambe ay jamaacadiisu gashay jamaacatu tahriir oo imka lagu yaqaan inay aad caan ugu tahay waxyaabaha kan ceebeynteeda oo la yiraahdo awwal rajul fi barlamaan urdun galeen muslimi iyagu ka tirsana marka dhanka laga eego Suudaan iyo xarakadii Turaabiya waxay soo samaysay Algeria iyo wixii ka dhacay Masar iyo wixii ka dhacay أردن iyo wixii ka dhacay waa tajaarib ku saabsan siyaasiga oo ay muslimiintu soo mareen waxa kale oo caalam islaami ka dhacay thawraat shacbiya oo aan iyadu xaraka musallaxa oo jihaadiyana ahayn xaraka siyaasiya oo intay aan طريق silmi martay diblomaasiyad gashay oo siyaasadda gashay oo baarlamaan gasho xagga ka timina aan ahayn ee thawra shacbiya adeegsato shacab cadhooday qaybo kamida waa la aamusiyay qaybo kamidina waa ku guuleysteen مثلا kuwa guuleystay haddaan tilmaamno waa ma xadasa fi Iran Khomeini iyo xarakadiisii tii u dambeysay meesha ku qabsadeen ummad dhan baa kacday oo gilgishay oo dawladii iyo qoryaheedii haysata kaga tuurtay oo dabeetana maalin ba janaan carro askarti kolba in iyaga soo raacdo saasi ku riday ma yaani saaxad go'aan ka bay soo qaadeen dagaal oo inta dagaal ugu qabtay lagu xoray dimuqraadiyadna laba galino baarlamaan inta la galay laga soo bixin ayana waa tajribo intaba ka gadisan in kasto cunsurka shiicannimaduna uu ku jiro ah inay qiyaada muwaxada leeyihiin xoog looga dambeeyo waad mado qolada sunni inay khilaafadiina waayeen qiyaada muwaxada ay ka dambeeyaan inaanay jirin laakiin iyagu ay leeyihiin qiyaada muwaxada qiyaada qura oo markay amartana la aqbalayo markay tiraado joojiyana la joojinayo oo imaam al-Khomeini horkacayay waxaynu leenahay waxa ka dhacay thawraat inqilaab isku dayay sida xarakada Suudaan oo kale dhowr iyo 60 ay sameeyeen oo ay meeshiiba qabsadeen oo ilaa xad haddana uu fashiliyo laga qaaday markiiba waxa ka dhacay tajribadan u dambeysay maga Turaabiya kooxdiisu ay galeen ee maanta Suudaan ka socota waxaan waxa soo dhan u tilmaamayaa leeyahay haddaynu rabno inaynu wax qiimayno ijtihaad tira baday أقوال العلماء بدنا واحد أنا ما سوى آخره نبنا بيدبس كجيرة تأثره ودكيس استجد شجرة لكن واحد في عن إن مركي تجارب تعمل قال الجلية وحكم براكتيكالة الله استعمالي أقول لكن أنا عمي ما ينين حادثة والبكو إيجية ظروف تيلان نوليد الزمن كين نوليد الضغط دقي لجوه هي بلشة النقمة دي سي حركة التاجر سياسة يسقوها هاي دولة دمشق كشرتية حوج جدا فرجلين ترى قلبات يسيد يكوها هاي إياه nimanka reer galbeeda oo taliya caalamul islaamiga sida ay u arkeen ama meeshan u qiimeynayeen ama waxa ka dhacaya ay ugu xisaabtamayeen adigoo waxa soo dhan ku qiimeynaya waa inaad qiimeysaa tajribada tani waxay soo saartay kullu hadhihi tajarib waxbay tareen haddii la tilmaamo ceebna mid ceeb loo waayaa ma jirto dad ceeb raadinaysana mid aan la oran karin وانا ما كان قد هذا ترى وكو إسلامك وما بعين كهاي لأنا بوحاول حاسة لين تدور شيء سو ورورسه وبشر يسوتجي بشر يسوتجينا هذيك أجان لفت هذا وإحنا قضينا يعيد كلامه مركز كتم هذا بل نلاش هذا يرقي ما يرقيه عيد كلامك كاليه إمي سجور بأفكار تادس بدش لبدي بالعدي والرئي مركز آخر ذي سباده هاي لبكده بيه مركز آخر ذينا سباده هاي ما أنتوا لبكده بيه آخر ذينا سكالات هاي إمي سجور بدس بدش وشخصيتك كلية ما كانت عيد كلا قيميني نلاش ما هالشيء جامد ومالس كجرة كبار عن دغدغاقين إيش بدل كريكول يبغى وكدعة وأنا الله أركان ميت شال يطوحي وفتوضي أما سوى رعتنا مثلا شيخ عمر عبد الرحمن شيخ عندنا عليه شو كم رأيك كلا خير سيء وحلا إذا هذا سيد جريدة مجلة المختار تلمامسه عدد كذي كوبي كونتنات تدبي سيداتك صباحي وحفت وضي إن لقلب برلمان هذا دخول البرلمان dadkana uu ku dhiiriyay isagoo markaasi fi nadari isagoo markuu xisaabiye u arkay in wax tar ka soo socdaan
laakiin majallat almujtamac ee soo baxday 23 bishii shanaad 89 wuxuu dib u fadwooday haddana inuu ra'yigii hore ka noqday bahalkan inaan waxba ka soo soconin waa markuu wax qiimeeyay inuu cala kulli xaal tajribadiisii haddana waxay siisay mar dambe inuu ka noqdo oo yidhaahdo tajriba jihaadiya alla maray oo kan meesha tan waxba kama soo socdaan ha laga daayo cala kulli xaal shalayna cayn ku lahaa maantana cayn ku leeyahay dee maxaynu masaakiinta maanta joogta ka sheegaynaa ijtihaadku isu bedelo markuu duruufta iyo azminada iyo amkinadu isbedesho waxaa taqaaneen imaam shaafici iyo ciraaq deganaa inuu qowl qadiim iyo qowl jadiid kale leeyahay markuu ciraaq deganaana masaa'il inuu si u arkay masar markuu tegayna 17 mas'alo si uu rumaysnaa inuu gediyo si kale uu fatwooday dabeetana madhabka shaaficiga la yidhaha qowl qadiim lishaafici oo waa ciraaq markuu joogay caynkaasuu yidhi berigii dambe uu masar tegayna saasan buu yidhi waxaan uga jeedaa marka duruufta lagu xisaabtamo wax badan baa isbedeliyo wadciga iyo awdaacda waxaan idinkula talin lahaa markaas inaydan tajribo qura isha saarin oo duruuf qura iyo wax gaara wadatay inay maskaxdiinu ballaadhato laba buug inaanay qafilin هنا اسكت إذا بل وح القرية وح الآخرية وح بينات كوض آخرته ولو رأيك هكوبا وافقنا بلنا أطلع رك هذه التجربة دي هنا اسكت إذا تجارب الحركات الإسلامية مرينا ودنا ندوح كوجا توح كآخر دي كو وحنسكت دي موضوع شائكة أهل له ميه ملا الدوان جيدين ما هيدن دي ما اللي بحكك عاي يا marka waxaan isku dayaa bal khawaatir inaan soo bandhigo khawaatir fikriya ma aha khawaatir nafsiya bal markaan waxaan indheeyay ama insha Allah raacay caalamka islaamiga sidoo muuqdo waxyaabaha igu muuqata in laga istintaaj karo inaan soo bandhigo hadday sawaab tahayna xagga Allah ka timi hadday khata tahayna te marka horeba mujtahid ma ahayn ee waxaan idin tajaaribtii rag un baan isku dayaa bal inaan soo bandhigo tajaaribtii rag ay fatwoodeen tajribeeyeen dabeetana inta ijtihaadeen dabeetana ay tajribeeyeen anigu midhihii ka dhashay ayuun baan doonayaa inaan bal wax ka tustusiyo midhayowgii ka soo baxay ijtihaadkii markii la dabaqay ee practical laga dhigay midhihii ka dhashay inaan wax ka eegano yacni inaynu midhaha wax ka cunno ولا ينود ذلك ولا يجتهد ولا ينود سمي شباب ما أنت بلا ما يبين إنه عندك على قاضي مدة هنا إن نسكوا حدينه فلنا وحكا عنا وحيان كعون كرمه سيد الدرادد وحلنا وحيابه أبا هنين إنه مركو هراء مسكحيا كوها إنه وحكم ده يعني أنا وراقه يجلس كستان مكتبات صامري ده بتنا وحن كهلا يبقى كتاب كير أو قرأ الدكتور عمر سليمان عبد الله الأشقى مقدمة دي سابقة دي عجب جلسي وحط الماما ينو الصورة ينصى بندقه كصاب صن محا الصبابي يعني أركتيها انك لقد سنين يمادانا مصيابها كان وحيابها الصبابي وحكم دبولي أبا هنين دي بلو شرحا مصيفي عنا ينوصى بندقنا الصورة التاريخية التي وصل الإسلام بها إلى الحكم marka hore bal inaynu isxasuusino suuradii taariikhiga ahayd ee islaamku uu ku gaadhay xukunka yani dawlad islaam hore u dhalatay ahdigii nabiga kaleey salaatu wasalaam bay dhalatay dabeetana way soo socotay ilaa ay qarniga kan soo gaadhay iyadoo maray xoog badaydna jirto maray si yara liidatayna ay jirto ay kala nooc ahayd suuradda taariikhiga ee dawladdan ay asliyan ku binowday waxay ahayd saynu wada naqaano الله أعلم حيث يجعل رسالته إلهي سبحانه وتعالى ماشى ودقيه الرسالة ديس إلهي وحو أدورته وحكمة إلهي كتكت إن نبي عليه الصلاة والسلام لقصوا صار الجزيرة العربية أو أهيد مركزي ما الآن لبدا قوة ووين الدولة كتشري أنا السيطرة بدن كلهين لبحوك أي الدولة واقع كتشري وحوك بيرشيا إيرانتا iyo bariga xukumi jirtay iyo xoog Romaanisk oo ilaa iyo Yurub hoose ilaa iyo North Africa ilaa iyo Asia soo dhan xukumayay labada xoog ee meesha ka jiray meel aan ahayn baa Ilaahay u doortay
ومكة إلهي ودورتين النبي عليه الصلاة والسلام كصابحه فعلا مكة أي النبي عليه الصلاة والسلام كوكوني قاعدة دي سيكوات واسكت دين تينو كفافية مكة واحد شوقي قريش أي سلطان ماشى كلها هاي لكن ما هي سلطان منظم وصيدا كون دول كلا بدن دولة دودا هاي ما هينه وقبيل يعني ما باور كماشى لا يقوله إسلام كان منزل الدين يقوله كعبة وحنا إلى لنا يبي هاي قبيل كسوع عدادية النبي عليه الصلاة والسلام نبي مركي العدادية وحنا نقالنا إن أنا وحب الله دجالمين لكن الرادية ما لب على كوادرتي سقيبة كم يجوب بدبادي كرطة دبتنا وحي الصحابة دي مركي وقت كيسن ويانا ندير الرأي هذين النبي قد دررتي وودي سدايات في القرآن السود جينا لها كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة ولا دي دررتي لبعض دي مركي كوبا ضطينا استئصال لغوص ما يدت كينا والله قعب صدق dadka wixii markaasi aan helaynin qabiil yara difaacamaan magaciisa laga weecanaynin ama tumistu ku badatay waxa loo ogolaaday inay hijroodaan nabigu ku yiri boqor caadil ah jira bal xaqiisa iska sii qabta kooxihii hore markaa way baxeen oo dhowr goor ay xigtaa waxay u hijroodeen qaxoontay ka noqdeen xabashada saxaabada qayb ka mid ah markaasi qaxoontinimo waxay ugu tageen xabashida isagoo uu hogaaminayo Jaafar ibn Abi Talib نبي عليه الصلاة والسلام إلى ذيكتي نبي ماشى النباتات هذه مركب كوبا تسوي حيرة هذه بالمال وتنفس كراينه هلا وكي طائف وتجي خير طائفنا وكوي سائري دبتنا النبي عليه الصلاة والسلام وحرادي مال وقاعدة قصة ما يسنك رب الإنة سلام فصل بريق كرا واحد عادي سين تاريخ قوة النقانه لبدي بيعه ولا قلي أنصار تسوى حج تكتي يعني في زمن الجاهلية ولا اسك حج يشري حج جاهلية كسو قنطي niman ansaaro iska soo xaj tagay oo islaamka uu bandhigay oo islaamay laba goor nabiga kaleey salaatu wasalaam u yimi dabeetana waxaanu naqaanaa inuu la galay nabigu bay'a al-aqaba lula iyo bay'a al-aqaba thaniya magaalada Madiina la yiraahdo sultad dawladeed oo ka talisa ma jirto Makka iyo Madiina kala nooc bay ahaayeen duruuftooda siyaasiga markaynu qiimeeyno Makki waxay ahaayeen meel qabiil quri sultadiisa leeyahay oo hadduu amro markaa qabiilku ama wuxuu doono uu ka samayn karo isagoo ku amarku taagaleeyo مدينة سماي هاي مدينة واحد مدة قوين شيدانية أو يسود اللي ترمي كرايني كتيرين لبا قبيلة أو سيا خسرة شلي هذا على هذا كذا حيسات شوقي يهود صدح قبيلة باشوفتي دبتنا قوة كمدينية لويش شبناية كاسيو حي سبب يقول ما قال هذا السيطرة يسمى شرتين قلبا وون لا يرى لا غرغر تما يعني political situation كمديني وحها politically ما لا غرغر تما يو أن عيد لهين كلمة حاسمة والنبي يقول صادر أي مركز الصحابة دي هالكاسي دينتو كفافية مدينة مركز مرهدانو تشرين باور مديسان وحاجة سرد دباك جراعية وحا كان ترترى يا مرهدانو تشرين وحي سبب تيني نقن كرتو مالو إسلام كو انتعاش كو هلا وفافي كرو سيفي عمبو وفاف قري مدينة كويا لما تشري بايد هذا إلا يوقلك النبي عليه الصلاة والسلام بايع عديد دم مركو لقلي وحسور راعيي صحابة قرآن كي الدين تي علم كي وحدا ودكتا دتك مسلمين تاع عصبة إسلامي مصعب بن عمير يا صحابي اللي هذا ماشي يمي سين نشيط أبا يوفافيه لبدي قبيل لبدي إننا كأضيق هذا بدين تسوق قلي سعد بن عبادة يا سعد بن معاذ رضي الله عنهم يا أوصي خزرج لبدي إننا هو قاميني قيادتي مركها ماشي بقى عن تعلق لك وحي نقطة إسلام كينو فافو قري مدينة كم دي مشرين بالليري لا يسلام كودك النبي عليه الصلاة والسلام مركو مدة شوقي إسلام كيو فافي وقادي ماشي ثانينا سلطة حوقن أو مسلمين تعادل تاكشرين أيوحو الدمعي إنو حوشيو مسلمين تهالكادقن وحو أقلادي مركز marka saxaabadiisii joogtay inuu yiraahdo xagga u hijrooda awal markii hore wuxuu diray xabashada saxaabadii dambe looma dirina waxa loo diray maxay marka Madiina loo soo diray waliba Madiina waxa loo soo diray hatta ragii cadadka xooga kulaha aan la taaban kareenin hijrooda leeyahay Umar iyo Quraysh kumay dhacaynin oo nin de laga baqo qabiil loo xoogan buu ahaa masiisa meesha dadka dacafada de la tumayay ama dadka aan baawarka xoogan haysanin
xataa kuwii wax iska rabi karayay ama aadkaay aanay qurayshi dhibaatada xooggan u geysan karaynin wixii oo dhan wuxuu nebigu yidhi hijrooda waxay isugu tagtaan maxay madiina loo soo wada hijrooday islaamkii baa faafay waxay noqdeen markaa muslimiintii sultada keliya meeshaba maanbaawarka keliya jooga aws iyo khasrajba way mideeyeen muhaajiriintii meeshay soo galeen xooggii islaamkaa muuqday markay noqotay inaan sultada cidi kula loolami karin muslimiinta ayuu nebiguna ka daba hijrooday dabeetana markuu magaalada soo galayba masaajid buu binay qoladii hore masaajidda may dhisanin waaweyn nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu magaalada soo galayba masaajid buu dhisay masaajidkani wuxuu tilmaamayaa waa golihii baarlamaan ee meesha tan ka talin lahaa waa sultad inay gacantiisa soo gashay nebiga calayhi salaatu wasalaam idan dowladnimadii madiina gacantu ku dhigay nebigu markaas waxaa bilaabantay markaa yahuudi inay isku daydaydo laakiin waxay arkeen inaanay iyana mar hadduu aws iyo khasrajba midaysto gacanta ku dhigay inaan la loolami karin yahuudina waxay ogolaatay markaasi sultadan inay ka qayb qaadato nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu la galay markaasi wasiiqadii distoriga ahayd ee taariikhda ku macruufka ahayd oo ah yahuudina inay ogashay dowladda islaamiga inay wax ka difaacdo magaalada madiine cid allaaliya ciddii ku soo duusha in loo midoobo oo la iska dhiciyo meesha tanna inuu islaamkaa haysta sultadiisii idan cahdi buu nebigu la galayo ballanqaad yuhuud ku saabsan madiina waxay noqotay markaa meel sultadii islaamiga ayd ka jirto halkaa waxaa ka kobcay markaasi islaamnimadii iyo dowladdii islaamka ahayd qurayshi markaa waxay bilaabeen muslimiintu may bilaabin hujuum ma rabo taariikhda jihaadiga inaan ka warramo laakiin muslimiintu wax hujuuma may bilaabin khutuuطan cariida litaariikhi siyaasi ayaan doonaya inaan idin tilmaamo qurayshi waxay bilowday markaa inay isku daydo inay hadido oo dee madiine iyo laba dowladood oo ishaysto labadii dowladood waa la isku duulo muslimiintu markaa difaacun bay gashay waxay difaaci ku jiraanba aakhirkii markay quusiyeenbana waa kuwii la galay maxay heshiiska warbal heshiis nabadgelyo inaan la isku duulin sulxu xudaybiya dhacay 10 sannadood bal inaynu nabad ku wada noolaano هذه العشر السنوات baa waxaa lagu tilmaamaa inuu islaamku si adcaafan mudaacafa inuu laba laabmay waxaan leenahay markaynu erayada tan soo duubduubna waxay sheegayaan nebigu inuu maka ku bilaabay calayhi salaatu wasalaam qaacidadiisii adkayd raggiisu tarbiyaystay oo ku dhex tarbiyeeyey naarta iyo cadaadiska iyo dhaca iyo dulmiga iyo ciqaabtaasi uu ku dhex tarbiyeeyey iyadoo la tumayo oo ku lahaa markay u soo ashtakoodaan sabran ala yaasirta uu tilmaamayay wax kale uu qabanaya aanay jirin wuxuu ku tarbiyeeyey inay dhibaatada xamili karaan wuxuu ku tarbiyeeyey inaanay naftooda u hiyi kicin aanay odhan waana la maaga ama waa intaan inaanay ka cadhoon inay mabda inuu shay qiimaha leh u noqdo oo mabda'aasi wixii dani ugu jirta un inay ilaaliyaan ee aanay noqonin kuwa naftooda u fakara ilaa xad culamaau taariikh ay yidhahdaan saxaabadu waxay noqdeen kuwa laga rabeeyey maxay xataa min xadi anfusihim inaanay naftoodu dheefba ku lahayn nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu joogay maka waxaa loo soo bandhigay inuu boqor noqdo boqortooyadaasi wuu diiday markuu meesha tan joogay waayo muu haysanin sanad dad ah oo xoojinaya intaynan kaba warramin jaanibkeeda caqadiga iyo baabkaaba intaanan ka warramin waxaan leenahay muu haysaninoo gacanta uguma jirin sanad ay isku mabda'yiin oo sultadan sare meesha ku xejin karaya waayo way diideen inay laa ilaaha illa allah yidhahdaan war laa ilaaha illa allah dhaha tuflixu buu isna lahaa waxaan leenahay nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu maka joogay wax dagaala lama gelin xarbi caskariya muu gelin si uu dowlad islaamiya u dhiso ee madiine ayuu u doortay inay dhismaha kan iyo waxaan oo dhan ka gasho kaasi waa suuraddii taariikhiga ahayd ee koowaad ee uu ku bilaabmay dowladdii islaamiga ahayd dowladdii islaamiga ahayd markaasi sidii bay usii jirto muslimiintu ay usii kaalmaynayeen ee usii xoogaysanaysa waa dhacdaa mararka qaarkood hubuutaadka qaarkood uu ku dhaco laakiin may tirtirmin dagaaladii mongolia tataarka iyo waxaan ay ku qaadeen ba ugu waaweynaayo qayb un baa noolayd dawla islaamiya kuwii jabiyey baa joogay de khilaafa alislaamiya sidii uu nebigu u taagay ayay u taagnayd ilaa iyo laga dumiyey qarnigan aynu noolnay mar muslimku uu khalif waayo aan dawlad islaamiya jirin waxaa timi maxay qarniga kan aynu noolnay ee khilaafadii u dambaysay inta loo tashaday la tuuray khilaafadii markay baaba'dayna waxaa dhashay dad muslimiin oo kacay oo leh waa inaan islaamkii soo celina
waxaa bilaabmay xarakaadkan islaamiga maanta aad taqaaniin. xarakaadkan islaamiga waxay isku dayeen inay dadkan khaflada hayse ka faydaan, caqligii iyo maankoodii inay ku soo celiyaan, inay diinta u sharxaan. dabeetana kitaab mu'alafaad baa la qoray, jaraa'id baa la sameeyey, wax kasta ay isku dayeen. waxay u halgameen inay islaamkii dib u nooleeyaan. shabaabka maanta alxaraka alislaamiya meel kasta dunida ka joogay dhaliyeen dadkii halgamee dambe. waa laga yaaba shabaabka inaad aragto yidhaah mishe qabel midba ma ahayn kaasi qolada tani waxan bay ku qaldaneed, waxaa ku qaldane waa kuwa idin dhaliyey, waxa idin soo nooleeyey waa qolada caayaysaano, ama kana ku qaldanaade ama kan ku qaldanaade. ninka jaanib salbiye lahaa 20 kaloo iijaabiya buu watay, maxaa 20ka iijaabiga ka indha tiray ee xabadda salbiga positive-kiisa maxaad u arki weyday? waxaa laga yaabaa inay shabaabku xataa culammadeennii Soomaaliyeed, culamada Soomaaliyeed oo kuwa diinta halkan u soo gaadhsiiyey, waxayna soo gaadhay iyagunbaa ka tegey. dib baa islaamkii u kabkabtay, xarakaadka islaamigaa baa dib u bilaabmay. waxyaabaha ugu waaweyn xarakaadka islaamiga ay abuureen waxaa ka mid ah inay soo baxaan shucuub dhawaaqaysoo u heelan in islaamkii mar labaad uu soo noqdo, oo le waxaanu rabnaa islaamku inuu dib u soo noqdo. laakiin inuu islaamku kursigii dib ugu soo noqdo waxaa hor taagan oo koow diiday alquwa alcaalamiya. isku wada dar adigu dhankaa doonto u sharax, yahuud, nasaara, cilmaa, waxaa doonta adu magaca doonto u bixi. alquwaat hayr alislaamiya fi lcaalam dhammaanteed waxay u soo jeedaa inaanu dib ugu noqonin maxay islaam xukum, inaanu ku noqonin min dunida darafkeeda ilaa iyo darafkeeda, inaan meel uu kaga noqdo la arag. haddii la arko meeluu ka bidhiiqayana in cunaa la qabto ilaa inta naftu ka baxayso. taasi waxay sababtay markaasi shacabku طumuuxaadkiisiina inuu waayo. shacabkii haddii la yidhaha footeeye way footayn lahaynoo shareeco way rabeen, haddana lama helayo una maxaa jira? waxaa yimi inaanay taasina dhacaynin. axdaadtan cusubi markaasi waxay abuurtay rijaalkii xarakaadka islaamiga u fakeraya xarakaadka islaamiga inay ka fakeraan qaabkii ay u noolayn lahaayeen mar dambe, ama qaabkii ay u gaadhsiin lahaayeen islaamnimada dawladda. shacabkii la gaadhsiiyo lagu akriyo loo wadiyo loo wad, laakiin waxaa laga fekerayaa weliyoo loo dagaalamayaa war kitaabka saynu xagga sare u dhignaa. dawladda see kitaabka loogu dhiibaa ayaa weli loo diriirsan yihi. waxaa yimi markaasi ictibaaraad kala gedisan, duruuf kala gedisan, waxyaabo badan oo u baahan in lagu xisaabtamo. waxyaabihii badnaayee lagu xisaabtamayey baa waxay keeneen ijtihaadaadku inay iskhilaafaan. ogsoonaadoo mid layskuma haysto suurada ugu fiican ee ugu qurux badan ee la maraa inay tahay tii uu nebigu maray calayhi salaatu wasalaam, haddii ay suurtagal ka tahay wadciga kan. qaabkii uu maray in la maro, oo ama aan si kale u idhaahdo qaabkii uu islaamku ku gaadhay dawladnimada in loo maro cid iskuma haysato. laakiin waxay isweydiinta le waxay tahay wadcigu kii ma la mid iyo ma la helayaa meel sidii loogu kobciyo u maro? madiino kale ma helaynaa oo intaynu u hijroonno oo dadku is haystaan oo intaynu diinta ku faafino dabeetana la qabsado, dabeetana sulta asaasato, dabeetana halkaa laga soo samaysto? mise waa meel xukum kale ka jiro inaad riddo oo adigu xukumka qabato? labada waa iyama. waxaan muran ka taagnayn inay furuuq badani u dhaxaysa labada wakti, yacni wax badan oo ictibaaraad oo kala gedisan inay jiraan. shalayto waxaan tilmaamay masale aan idin idhi, salafinimadu iyo istidlaalka salafiga ah waxa weeyaan baynu idhi qaabkii ay u fahmeen diinta ay u adeegsadeen inaynu istidlaalno, laakiin qadaayaadkay la noolaayeen inaynu la noolaanaa qasab maaha. haddaan wadcigu wadcigii ahayn waa inaad isku daydaa sidii ay sunnada iyo kitaabka u fahmayeen oo kale intaad u fahamtay inaad kan ku dabaqdo, waayo kanna kitaabkan baa u xala oo xal kale ma jiro. ee kitaabkii sunna waa mabda'i xalka ahaa, laakiin waa inaad u fahamtaa, u fakertaa tan sidii aad u xalili lahayd iyadana ijtihaad ula timaadaa. marka ijtihaadkaaga waa ijtihaad salafiya oo ku samaysan alfikra salafiya, kayfiyat alistidlaal weeyaan waxa la qaadanaya. laakiin dhacdadu inaanay dhacdada ahayn baa laga yaabaa. maalan axmed ibnu xambal cahdigiisii dhacdabaa heshay ah qur'aanka waa makhluuq,
dabeetana waa u istidlaalo wuu ishortaagay oo waa u jihaadsamay laakiin haddaanay tii joogin waxaa laga yaabaa maanta mid kale oo le inuu ka hortaagayeyba diintu shareecadu ma gasho xukunka kana waa in loo dadaalaa markaasoo loo fakeraa waxaan leeyahay marka bacd shabaab aw bacdi lumma waxay u fakerayaan furuuqdan oo dhan intay ilqeeyeen ayay waxay leeyihiin halkii waa in la maraa qaarna waxay leeyihiin war maya ee duruuftii waxbaa ka gadisane waa in ijtihaadaad jadiid iyo wax la xisaabiya oo waxyaabo badan lagu xisaabtamaa taasi waxay keentay markaa nadaradii culamadu ama dadkii ijtihaadaya inay kala gagadisnaato intaasi waxay iga ahayd muqadima intaas waa mawduuca muqadamadiisa aan qabta haddaba mawduucii mawduucu wuxuu ahaa sidee baynu islaamka u gaadhsiinaa maxay xukumka haddaad salafitiyo haddaad ukhwantiyo haddaad turaabi u nisbe sheegatiyo haddaad jihaaditiyo haddaad meel kala tahayba dhammaantiin waxaa leedihin waxaanu rabnaa alxukuma alislaamiya aw addawla alislaamiya taasi waa hadafka inaga dhexeeya nin ka muransanina ma jiro hadafkaasi kullu waaxid maanta shaab oo muslima maskaxdiisa waxaa ka guuxaysa ilaahay kitaabkiisu siduu halkaa u gaadhaa qof kastoo muslimina wuxuu leeyahay waar ka quusanay gaaliya waxeeda ilaahay kitaabkiisa saan xagga sare u dhignaa waa hadafkii inaga dhexeeyey laakiin ayna ariiq ma hiya alwasiila maxaynu qaadanaa wasiilada hadafku isku mid baynu nay marka waa inaan walaalnimadeenu horta dhiman ilaa isku waxbaynu doonaynaaye macraka waaxida baynu ku wada jirnaa meel baynu wada soconaaye waa inaan walaalnimadeenu marnaba aynan istuhumin oo aan la odhan karin qaradka uleeya kani waxaan buu waday kani waxna uma wadnay halkaasaynu ku wada wadnaa laakiin waxaynu isira weydiinaynaa wadadaynu maraa haddaba ma hiya alwasiila markay wasiiladii timi ayaa ragga badh wuxuu leeyahay aan cayaarno allucba dimuqraatiya oo maxaynu samaynaa aynu isticmaalno ma waajihi karno dhibaatooyinkan jira iyo arrimaha kan maanta ka socda caynka kan quwadeennu xadkan may gaadhin wakaa dabeetana aan isticmaalno turuq silmiya aan isku dayno inaynu si silmiya u galno inaynu issharaxno isa soo rashaxno miyaa la yidhaha af carabiga af soomaaliga mala waa sharaxne inaynu isa soo sharaxno madaxweynenimo iyo wasiirnimo iyo baarlamaan isu soo taagno inaynu markaasi dawladda sare galno inaynu markaasi markaynu dawladda galno manaabirtaasi xaqa ka sheegno dadka halkaasi inaynu diinta ka gaadhsiino dabeetana uu noqdo qofkii daacigee weynaaye xagga sare joogay xasaana diblomaasiya iminka afkaa lagu qabanaya dee waxba laguma ogolee markaasi wuxuu helayaa xasaana diblomaasiya dabeetana kelimadiisu kelima masmuuca bay noqonaysaa booliiskan baas iyo waxa kan hoos joogay afka ku dhegayo kolbale waxbuu sheegay waxani markaa ma qaban karayaan ilaa xasaanada laga qaada mooyaane kelimatulxaq xagga aan ka sheegno oo yaynan maxay sadaam yaynan iminka gelin birir joogta ayaynan iminka u gelin badh saasay u fakereen kama warramayo qadiyadeeda xaggeeda fiqiga ma banaanta bise ma banaano kama warramayo waayo culamaa ka mida culamadii waaweyneeda muslimiinta baa fatwooday idan mustafa dee waa kuba markuu yidhaahdo ma banaana inaan mujtahid kale u nidhaahno adna maxay kula tahay mooyaane mustafa taa xaqu ma laha culamaa waaweyn baa loo nisbaynaya bal ijtihaadaad jamaaciya baa ka soo baxay majaamicda fiqiga islaamiga qaybo ka mida oo banaynaya rag culamo waaweyn oo diidanina waa jiraan laakiin anigu jaanibkaa kama warramayo wasiilada lafteedaan ka warramaya laba shay baa kala jira shaygu ma bannaan yahay iyo ha bannaanaade maya kii munaasabka ahaa imika waa laba shay oo kala gedisan shaygu ma bannaan yahay haddaynu idhaahno waa bannaan yahayna waa lagu jawaabi karaa ma bannaanana waa lagu jawaabi karaa laakiin waxaa markaynu nidhaahno wuu bannaan yahay kaloo imanaysaa waktiga kan kii munaasibkaha maye mise ma aha dabeetana waxaa laga yaabaa adigoo rumaysanba inuu bannaan yahay inaad haddana tidhaahdo waktiga kan munaasab maaha ha loo yaro kaadiyo fursad tan ka gedisan aan la sugno markaa waxaad ogashay mabda'iyan allucba siyaasiya inaad cayaarto laakiin waxaad diidan tahay darfiga hadda jooga inaad gasho yani soomaalidaan anaga xisaabtan siyaasiga xisbi yidhaahda sanadka waanu qaaticinay oo ma gelayno doorashada lafteeda ma diidane wuxuu diiday ama duruuf uu arkaya jirta inaanu labinka kan maanta gelin qola dhankaasay ku tagta shabaabka badh ka midaba waxa maskaxdooda ka guuxaya war waxay ka dhowdahay inaynu askarta galno oo dhuumanno oo isqarinno oo
التمويه استعماله ودبتنا إنه عندما تصير كبيره وإنه كورنا إلا نقنه ودبتنا ضرب قاضية اللي أجنو مر انقلاب لدقه قيل هذا بدني نجد أيو ساسون هاللون من هذا وحلا فافيه وكاسيو مر كإنه قادنو حاجة صاره ضرب قاضية هلا لا يكتر إذن ستكون الحكومة الإسلامية بالقوة أدقو أكي عسكري هاي قرية هيستي حاجة صاره محابة دور شيء ما أقبل السلام كي أقبل ما محاو نيغوشيشن ككيني مر كده أن لسقنا إيه مكانه هاي سنغرقاتشننا بعدنا عين كاسير ربيسي وحلقة بينه وفكرين لين ضربت ديننا ونن لسقنا مر كاسين تنقبلنا انقلاب إسلامية دبتنا هلو مجرى صباح حاسين شعارات إن لقول شيء استريتية ده أو صباح ده مركز حكومة دي إسلامي جاي شباب كبر نوحي يفكريان مايا maxaa waxaan kale uga fakaraysaan dariiq ilaahay baneeyay baa jira xagaa idinku maqanti xagaa jihaadkii ku ilowday lucbada siyaasiga iyo waxa la leeyahay aan inqilaab sameeynayo waxiina sheegaysan xagaa ku ilowdeen waxaan ka baxa oo aan sameeyno tadriib askari qoriga ha lagu tababarto عسكرات عن سميسنا دبتنا عن دانو بحنا دبتنا عن دجال كقادنا دبتنا ضربة قاضية عن دور كقدفنا حق وهدي لجاري واير دي شهادة تلس هدي لجاري وايو شهيد بعد نقرس هدي كلنا دي جاري إذا خلاص ما في نيغوشيشن محابة كان محا كان إنه مرنية وحكن إحدى الحسنيين إما شهادة وإما النصر تتكبرنا هالكاسي كيف فكريا فأيهما هو الصواب فسؤال هذاك أيهما هو الصواب فسؤال هذاك انت أنك جوابين محا صوابه أنسك له هضله ملا وحي ندوني إنه وذكرا هو محي الدولة الإسلامية سؤاشان مركز صواب بندقيا waxay tahay intaanan ka waramin saddexda wasiiladood keebaan qaata waxaan idin leeyahay dawladii goormay jirtaa hal darastum التاريخ أو السياسة waxay ku sheegaan yani iyagu markuu tagana dhacdadii shalay dhacday taariikhday ku biirtaa markay joogto ama laga fakarayna waxa la dhahaa waa siyaasad aduu xagga doonto ku daro dawladii goormay jirtaa dawlad waxa loo yaqaan goormay jirtaa laba wax midun baa dawlad jirsiya inay dawlad leedahay sanad khaarijiya iyo inay leedahay sanad daakhiliya dawladii labada jeer un bay jiri kartaa inay leedahay sanad daakhiliya oo ah dadka kani inuu waxa kan rabo uu rabo naf iyo maalba inuu ku bixiyo markaasi hadday ka xoog badato cadawgeed way jiri kartaa waxay kaloo jiri kartaa haddii ay jirto awood dabadeed oo taakulaynaysa dawladda tan oo ku qasbaysa shacabku inuu u hoggaansanaado sida kuwa wadanadeennii ka jiro dhan ma awood ay leeyihiin bay ku jiraan ay dawla ba caalam islaami ka jirto xoog ay leedahay ku jirta waa tumata dadkeedu ogolyi waa tumata khayrka wada ma jiro laakiin quwo kala jirto xoog iyo wax walba waa hadday wax walba kala talisa dhaqaala kala taliso siyaasad kala taliso hub siiso oo jawaasiis u ah oo caalamka waxa ka jiro dhan qofka meel mara u soo sheegto oo haluma jara ku qasabta dadka kan inay ninkan u hoggaansanaadaan dawladii labada goor uma jirtaa aan su'aasha ku weydiiyo marka mar dambe soo celiyo adiga taada yaa jirsiinaya hadaba saddexda taa doontaba maro adiga taada yaa jirsiinaya
ملا أن سوى دوية تصالياش أن سوقات الطريقة الديمقراطية وحين مرة طريقة الديمقراطية marka dimuqraasigu uu jiro haduu xaqiiqo yahay yani inaga xageena waa loo cabshaad la gashaday isagu ma jiree haduu jiro kan galbeedka yahay laftiis waxa jirta waxyaabo sababa inuu xisbigu soo baxo iyo inuu soo bixi waayo مثلا waxa dhici karta in xisbi dadku ka quustay oo in badan la tijaabiyo la nacay in badan inta la tijaabiyay in la nacay dabeetana dadkii ay u arkaan xisbiga kan mesela hadduu ka caalamkeena oo kale yahayna ay u arkaan inaanay wax kaloo ay ka dheefeen aanu jirin tacab iyo dulmi iyo dihaad mooyaane nimankaa meesha haysta wax kaloo ay ka heleen inaanay jirin iyo faqri iyo marad iyo waxaan jira de waxa dhici karta markaa inay dadku ka quustaan kaasi jira adiga xisbigaaga yar islaamigaana inay ka dareemaan dad iska nadiif oo wixii loo dhiibay lagu aaminayo aan la arag wax badan oo khiyaameen iyo waxay isdhaafdhaafiyeen oo mararka qaarkood waaba laga yaabaa inay ka yara shakisan yihiin maqdiradaada idaariga ama tanfiidiga laakiin kolleyba inay ka door bidaan kuwa kale bal kaba soo qaad waqtiga caynkaasi aad nasiib u heshay oo la nacay axsaabtii kale oo ay baabeen oo dadku aanu midnaba rabin inuu meesha ka soo baxo adigana waxoogaa lagu yara tuhmayo silaaxaaga iyo wanaagaaga foodkii baa lagu ridriday waa lagugu riday aqlabiyat albaarlamaan baad heshay meeshii baad xukuntay markay taasi dhacdo maxaa dhacaya maalinta aqlabiya baarlamaan aad gacanta ku dhigtay dawladnimadii aad gacanta ku dhigtay wax walba ay noqoto inaad adigu suurto geliso waa in bari iyo galbeedba ay isu yeedhaan waa in la yidhaahdo halkan waxaa ka soo socda fundamentalist wadaaddaa tan ka soo rooraya dabeetana maxaa la samaynaya cunaqabatayn dhaqaalaha lagu rogo xagga siyaasadda ha laga curyaamiyo baddiisa hala inxisaara lagu sameeyo wax galiya wax ka soo baxayay jirin wax walba cunaha lagugu dhigay arrintii markay halkaa marayso ayaa shacabka ku yidhaha war waxaanu cunaabaan doonaynaa sicirkii qaaligarow cunadii cirkay maraysaa waxa kani socon maayaana dhamayaha ama dunida la macaamilo dadka la heshiiya ama waxaanu cunahana la siiyo kaba soo qaad ilaahay khayra siiye maxamed qodob ayaa wuxuu yidhi masar haddii inqilaab lagaga dhufto oo ay shabaab min alxaraka intay meesha qabsadaan xagga sare la fuulo في يوم واحد بيقول بي شارع الدريرية يقول عيش بانو دونينا عيش بان لغالي قروبيه أدنى عيش بان واي ساعات سيسو وعيش يلي ميس تسوحي سبابي سابو لي طبعا عشان مركا مظاهرات وسوق يسدبت شوقو إن الدولة دادو دعضه دبتنا متكلم علماني هنا ماشي سكفوشو وحن لاني هدي حتى تاسدي عويدو وين وحوقاق علمانيين انت جوجتا انت انقلاب لقود دبرو لان دادكي ولي waa noocyadkii kuwan aad meesha ka soo baxday inta inqilaab lagu dabaro وين madaxa lagu dhufta maada waqac fi Algeria maxaa ka dhacay baarlamaanka qabsaday waxay yiraahdeen war nimankiina maxay doonaysaa waxa la yiri one man one vote hal qof iyo vote baanu rabnaa isagaanu idin kula qurus qaybsanina bal dadka hal la weydiiyay waxay doonayaan one man one vote kii baa dhacay waa la isugu riday markii la isugu ridayna الدور الأول أي 87 عضو هلين وأنت عن دورة ثانية بلا قارن 87 هدو عدكاقو قاروا محي 70% 2/3 هدو عدكاقو ضافه وحد هذا حق بعض ولا هذا وحق قانون يدستور ودك يلا وين أترفع عسو ودواتي لو رجل دساتير تيو وحا لقولنا سخام حي صدح دلال والله بدلال مركز شو 2/3 مركي قاري إذا أنت عن بحالكي بدأ معنين والدورة الثانية أنت عن لقلين ayaa waxa muuqatay in baarlamaankani noqonayo baarlamaan islaamiya xawaalay 80 أو 90% inay markaasi suurtagal noqonayso maxay inay ku sameeyaan awal jalsa la fadhiisto
in la yidhaahdo wixii waddankan qorqorraayoo dhan laalaaba oo talag xashiishka lagu rido dabeetana lasoo dabaqo ashariica alislaamiya bari iyo galbeed way isu tageenoo wixii dhacay baa dhacay galbeedkaa la weydiiyo waxaa la yidhi war maa waalanti soo idinkii dadka lahaa dimuqraadiyadda qaata xag marteen dimuqraadi noqda dimuqraadi dictatorshipkan anagu nacabna dulmiga waxaase caamada lagu sheekeeya nimankani waa niman xuquuqal bini aadamka ilaaliyaan iyo waa kan dimuqraadiyad bay dadka la rabaan oo way celinayaan oo tiisoo naga qaadanay maxaa dhacay markaase waxay dhahaen jidkay mareen sax bay ahaayeen waa saxaafa alcaalamiya waxay qoraysay jidkii ay mareen sax buu ahaayo dee dimuqraadiyaddii baa la maro waxba lama khiyaamayne cid aanan doonin baa soo martay bay yidhahdeen waddadu sax bay ahayd ee kan dhabaha hayey ayaa ahaa inkaar qabe idan adigu inkaar qabaha dhabbada soo haya haddaad tahay cidi kuma soo dhaweynayso waxaan leenahay haddii taasi ay dhacdo ma dhacayso inaad dawlad islaamiya heshid hal laakiin kama hadlayo yacni marxalad lagu meel gaari kara maya anuu kama hadlayo ma yahay darfi wakti jooga ma la odhan karaa kawaadir baynu ka helaynaa ama tadriib baynu ku heli karnaa ama dawladnimo inoo bislayn kartaa ama mustaqbalka inoo soo dhaweynaysa ama waxa ugama jeedna inaanu dawladda ku gaadhno ama se codkaygaanu doonaynaa inaanu dadka u gaadhsiino taa kama hadlaya anigu waxaan ka warramaya alwasiila alakhiira matay aynu u fekerno nidhaahno wax kale ayayna samaynayne dadka codkoodu intaynu sugno maalinun baynu noqon doonaa baarlamaanka 100% oo dabeetana meesha caynka ku noqontaa ma tahay waa taataan ka warramaya laakiin kama warramayo haddaad adigu tidhaahdo waa wasiila marxaliya baan u adeegsanaya aniga maaha wasiiladii aan ku gaadhaye dan kalaan rabaa inaan ku oofiyo oo inaan kawaadir ku dhistiyo inaan shacab ku heliyo inaan caynkaa ku helo baan doonayaa sidaa tan kama raba haddaad leedahay waa masale kale laakiin hal hiya aakhiru wasiila inay gaadhsiinaysaa ila alxukm baan leeyahay waxaan leenahay maya markaa waxaa kugu filan inqilaab yaroo lagu dabero haddaad adigu inqilaabka dabartana oo adigu aada inqilaabka dhigtana waa la mid waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdaan waxaanaad sheegayso dee aduba khayaalkaaga ka sawirtay sawti caalamulislaam inta inqilaabadu ka dhacan maha inay xukumi jireen ma ayaynu ka caqli yarna siyaad barraanu ka liidanaa inaad tidhahdaan laga yaabaa intaanu inqilaabka dhigno dhag kaga siino aynu weliba xukumayna inqilaabaadka caalamulislaami ka dhaca waxay ahayd thawraat mudabbara inqilaabaat mudabbara oo laga soo shaqeeyey iyagu kumay fakeri jirin waa loogu soo fakeri jiray inqilaabku inuu dhacayo ama baytul abyad ama baytul axmar baa laga soo go'aamin jiray guriga cas iyo guriga cad midun baa inqilaab ka soo go'aamin jiray inqilaabku maalintuu dhaco ayaa waxaa la keeni jiray xoog military oo ciidan loo sameeyo oo hub la siiyo oo loo tababaro oo kawaadir siyaasiyiina loo sameeyo oo shuuciyadda loo baro oo dhaqaalaha laga kaalmeeyo oo tacliinta laga kaalmeeyo wax walba laga kaalmeeyo waxay dawlad rag u wakiilee dee may ahayn dawladda iyagu leeyihiin nin bay u wakiil ahaayeen dabeetana waxay ahaayeen dad lagu shaqaysto waxaa laga yaabaa maanta inaad tidhahdaan bal muslimiintu maxay bosniya ugu dagaalamayeen oo muslimka ma dawladda meesha joogta waxay u dagaalantaa meel la doortay mise danbay meesha ku nin baa meesha dhigtay ninkii wuxuu yidhi hadduu samee bay dee samaynaysa maaha dawladda tani dawlad iyadu intay fekertay dhisantood daatadeeda ku taagan ee waa dawlad loo fekero rag intay tadbiir iyo takhtiid u dejiyeen baytul abyad oo baytul axmar laga keenay malaa'imka baytul abyad ka wada noqdeen kii casaane caddaa baa la yidhi kii bariga ku yaalay isna waa caddaaday baytul abyadkaasay ka imanaysaa waxaan leenahay marka iyagu waxay helayeen sanad khaarijiya oo daqdiya dadkoo shicibka cadaadiya intay ay cadaadi karaan waa laga yaabaa in cadaadisku socon waayo muddo markuu joogo shacabku cabudho oo dabeetana fulkaano dambe qarxootii dhacdo laakiin nimanka yar iyagu way yaqaanin si ay isticmaalaanoo dee kani hadduu dhaco dan kama lehe waa inay mid kale ka dambe dhacayay lasii qabsadaanba markay arkaan kan inuu malfuud yahay oo la tufayaan meesha lagu haynaynin ku kaley sii dabaraan oo intaa ka kalena iyagunbaaba kooreeyey idan waa xamiir dameerka ridoo dameerkee weeyaan marka dameerku dhaafaba waa dameertaani weligaaba adigu kii hore nacodhe siyaad barraa ka simeye maka dameer maalinta ku dhaafaba waa dameer taaniya unoo meel kale laga soo raray idan lucabkan siyaasiga caalamiga rag baa cayaarayo gacanta ugu haya madaxdan iyo dawladahan ay sheegaysaa rag baa meesha dhigtay muslimkana leediin maxaa loogu gargaari waayey kaad gargaarka ka filaysaa nin buu wakiiluyo uu meesha fadhiya waa kuwa maanta yidhaahda ka waran baa la yidhi dagaalka bosniya khadaafi markaasuu yidhi sirbiguna waa asdiqaa'una buu yidhi muslimiintuna waa akhwaanuna ahiya caqliyatu serbiguna buu yidhi waa sidiiqyadii
muslimiintuna waa walaaladii buu yidhi yacni qolaan isku reeranunbaa ismaagmaagaysa weeyaane wax dhibaato badan meesha kama jiraan waxaan uga jeedaa dadkan dad baa meesha dhigtay haddaa idinku haysataan digtayda reer galbeed ku madax adayga inuu yahay iyo waxa inuu yahay waa sheeko aan jirin waa sida adiga lagu tuso waayo shacabka waxa laga yaabaa thawraadkoodu inay degdegaan hadday xaqiiqada ninkan ogaadaan shacabka jahal haysta oo masaakiin dacafa idina waa gaalaysiinaysaan oo ma ogidin waa dacafa aan waxba kala ogeyn oo haysta ninka nin fiican ninkana rag baa meesha dhigtay aadna odhan kari weyda war ninku idinka maaha ee waxaad leedahay ninkay raacina waa gaalo war shacabku gaalo maaha waa masaakiin meesha jooga ka reeb oo ka dhici waa gaflay ku jiraan waxaan leenahay waxaa jirta marka haddaad inqilaabadu ay liibaanaan inqilaabadan rag baa dhigta oo dawladaha ka dambeeyo dadba adigu markaad inqilaabka dhigta ayaa kaa dambeeya labadii cilmaani markay shacabka hogaamiyaan ay yidhaahdaan roodhaanu doonaynaa iyo garow baanu doonaynaa soomaaliyaad maanta ka dhigtay inqilaabba waad qabsatay markaad qabsataa badoo dhan laga xidhay dabeetana qurusba wuu soo geli waaye marka raashinba soo geli waaye maxay yeelayaan bay kula tahay soomaalidu waa dad iska juhalo caamo oo iska liito masaakiin oo lucbada dunida ka jirta waxba ka ogeyn oo iimaankooda xad salaaba aanu gaadhin maxaan iyaga u odhanaya innagaanu iimaankeennu xad gaadhin imisaa kabashkabashleeyey markay dhibaatadu badatay ama siyaad barre waktigiisii markuu cadaadisku bato ama duwalkan caalamka islaamiga imise nin weyn oo ay taqaaneen baa dhacay oo la waayey idan nabaddu intay nabadi joogtaan ninba laba nin leegayay bay soomaalidu tidhaahdaa nabadda markay joogto dadku waa wada xarfaane markay laakiin cunaa la isku dhego dadka aad moodaysay inay iimaanku cirka wada marayo unbaad hareerahaaga ka waayi dabeetana wuxuunbaad arki u shacabkii oo lagaala hoos baxay oo mudaharaadka wadoo le roodhidii baanu weynay iyo garow ma haysano iyo beriis nimanka kanisay waddankaba u qabsaday jawaan beriisba mayman marka la yidhaahdo adigu xaggaad beriiska ka keenaysaa ma dawlad islaamiya kuu maqan mise waxaad odhanaysaa waar gaajood oo shacab abi aalib gala oo nebiga markii inxisaarka lagu sameeyey way la galeen oo gaajay ogoladeen oo sharaftidooda wakaasiyo waa inxisaar iqtisaadiya wax walbaa lagu sameeyo god bay khandaq bay isku wareejiyeen ghaswat alaxzaab oo gaajay nafti ka baxdo saxaabaa nebiga u yimi oo gaajo ka cabanaya bil bay god qodayeen shitaa dhaxantu ay dhacayso barafka aad yaabto sacuudiga waa soo wada marteen ama in badan ba aragteen madiino dhaxanta ka dhacayso ay shitaa taagantoo dhaxantu ay saa u dhacayso ayay bil godkaa qodayeen habeen iyo maalinba ka shaqaynayeen oo nin walba intaasoo mitirinta loo qayday la yidhi ciidanka maka ka soo duulaya soo socdee luqahay intaanu na soo gaadhin godka intaa leeg waa inaad adigu dhammaystirtaa oo nin waliba godkaa qodayo u dhammaystirayo aanu waxba haysanin oo habeen iyo maalinba ay soo jeedeen oo gaajadii markii baggu isku dhegay ayay dhagxan ku xidheen calooshooda intay dhagax laabteen bay caloosha ku xidheen abi talxa u yimi oo dhagax caloosha ku xidhan markaasuu yidhi yaa rasuulallahi naftii baana haysataa intuu beerka ka qaaday marada buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow markaan waxba samayn kari waayo dhagax baan caloosha ku xidhay nebiguna intuu beer ka qaaday buu wuxuu yidhi aniga labaa igu xidhan adiga xabad baa kuu xidhane labaa u xidhnaa nebiga calayhi salaatu wasalaam markaad inqilaabka dhigtee meesha qabsatid ee cunaqabata in lagugu sameeyo dhaqaaliyo siyaasiya meel walba cunaa lagaaga dhego ee aada isku soo hadhaan adiga iyo dadkii ee dadkii mustawihii aada moodaysay inay joogaan aad ka weydo shalay waxay isla ahayd cilmaaniyiinta kaa raaci maayaan ama gaalada kaa raaci maayaan ama caynkan kuwiiye samayn maayaan aada booskii ka weydo ee mudaharaadadu isjiidhaan ee ay degi waayaan dawladda jirtaa waa kee waad dhacaysaa unadna idan waad dhacaysaa waa qasab inaad dhacdaa waxaan leeyahay marka aariiq alakhiir ma aha ariiq inqilaabiya isaguna mana aha kan ama labadaba ciladaasa ka muuqata yaan odhanin ma ahabe aan talada idinka idiin daayo laakiin anigu wuxuun baan jeclaya inaan idin soo bandhigo bal sida waxay ila muuqdaan idina qiimaysateena bal halka idinkala baxdo aa aragteeni dariiqadanina waa taa waayo waxaynu leenahay ariiqada inqilaabiga iyo ariiqadan kale ee dimuqraadiga ah dimuqraadiyadda mararka qaarkood darf yaroo mucayana xaadite markaa jirta xisbigaba uu ku hela isagoo aan nolosha kale wuxuu ka qabo o dhan la ogeyn yani masale iqtisaadiya markaa taagan ama masale siyaasiya mawqifuu iska taago xisbi kale inuu ka taago laga yaaba dadkuba mawqifkaa daraaddii inay ugu ridaan iyadoo aan la eegin nolosha kale wuxuu ka leeya o dhan calaa kulli xaal waxaan leeyahay codka qofka waa la heli karaa
ama iimaan kaga helo ama siyaasad kaga helo ama saa doonta kaga helo qof cod waa laga soo qaadan karaa laakiin waxaan idin leeyahay alcaatifa addiiniya waa laga yaabaa markaad tirahdaan waa xisbi islaami oo islaam ku xukumaya in dadka laga helo caatifa islaamiya waayo dadka islaamnimada kama marna jahlaa dadka haysta laakiin caatifadii islaamiga ahayd iyo deenu maraaqoodkii dadka weli way leeyihin laa ilaaha illa allahu muxamadun rasuulullah bay leeyihin salaadii bay tukanayaan zakadii bay oogayaan xajkii bay tegayaan waxaasoo dhan bay kula ogol yihin waa dad muslimiina laakiin waxaan leeyahay laa ilaha illa allahda intay ka yaqaanin iyo intaanay ka aqoon baa kala badan yacni jahli badan baa ku sugan mabdii wuu kula ogoliyo jahli badan baa mabda'a kaga sugan waayo wuxuu moodaya in sidanna la ahaan karo islaamna la ahaan karo waxaan leenahay marka caatifada iyo qaacida alislaamiya waa kala nooc shacab far kuu taaga waad helaysaa shacab se kula geeriyooda waa adagta icطaa'u sawt waalmowtu fii sabiili اllahi shataan inuu qofka codka ku siiyo ma islaam baad nagu xukumaysaa oo gaaladii waxaas o dhan waad naga dhicinaysaa nin fiican baa tafadal oo kugu rid inuu codka ku siiyo iyo marka cunaa lagugu dhego inuu wax kaa dhicinayo o kaa furfurayo waa laba aada u kala fog waa laba kala dheer aada iyo aada iyo aada u kala durugsan waxaan leenahay in lagu kadsoomo maaha dariiqo kalaa soo hadhay oo jihaadkiiya intaanan jihaadka ka warramin malaa ereyga sharaxiisa iyo saa loo arkayo isaga laftiisa bala waa lagu kala gedisan yahay intaanan isaga ka warramin waxaan leeyahay in qaacide islaamiya la dhiso oo ummadda tan xejisa oo islaamnimada ilaalisa oo haddaad dimuquraadiyo ku timaado marka lagu gilgilo wax kaa dhicisa oo haddaad wax soo inqilaabtay markaad meesha qabato wax kaa dhicisa oo haddaad jihaatamayso kuu nusraysa qaacidadaasoo aada hesho mooyaane tasawuraadkaagu meel soka weeyaan anugu kuuma tilmaamayo ka saxa ah laakiin aragtidaydaa kuu soo bandhigaya qaacidadaasoo aada hesho mooyaane wixii ka soo hadhaa degdeg bay u egyihin nebigu calayhi salaatu wasalaam sida daraaddeed buu 13 sannadood maka fadhiyey oo la dhibayo oo la tumayo oo la cadaadinayo oo wax kasta lagu samaynayay oo ay saxaabadu si kasta loo galay oo torjarka ay arkeen ay arag oo iyagoo nool la xabaal nololiyey iyagoo nool aanay waxba la noolayn ee ruuxdooda quri noolay oo dhibaatadu markay ka badatay intay nebiga u yimaadaan calayhi salaatu wasalaam ay lahaayeen alaa tastansir lana ya rasuula allah ilaahay rasuulkiisiiyo maad nusro noo weydiisi ilaahay maad noo weydiisid inuu noo gargaaro dhibaatadii badatay mashkiladii adkaatay xoog badan aan wax iskaga dhicinna ma muuqato dagaalkii nebigu u diiday oo yidhi ha dagaalamina markaasay intay nebiga u yimaadeen lahayna alaa tastansir lana ya rasuula allah ilaahay rasuulkiisiiyo maad alle nusro noo weydiisi muxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam nebigu intuu dhaartu wuxuu u tilmaamay diinta tan buu yidhi ilaahay baan ku dhaartay alla wuu dhammaystirayaa dhulkana wuu makansiinayaa hada huwa almabda diinta nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay diinta tan alla wuu makansiinayaa oo dhulka way degaysaa oo suuli mayso gabadha sanca ama xadaramowd deganina way soo lugaynaysaa oo makay imanaysaa iyadoo ilaahay subxaanahu wa tacaala uun ka cabsanaysa yeygo ay adhiga ka ceshatay yacni wax kaloo ay ka baqaysaa iyadaanay jirin yacni xoogga islaamigii saasuu noqonaya walaakinakum qawmun tastacjiluun buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam walaakinakum qawmun tastacjiluun laakiin waxaad tihiin buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam duul degdegaya
waa dheeraynaysaan buu nebigu leeyahy diintan anaa huba buu nebigu leeyahy inuu ilaahay u gargaarayo inay imanayso waliamrin maa buu maxamed qutub leeyahay ilaahay ha ka abaalmariye ayaa qur'aankii ku soo degay maka oo dhami buu yidhi ma sheegin saxaabadu inay nasri helayso saxaabadu inay nasri helayso waxaa ka warramay oo keliya buu yidhi qur-aankii madiine ku soo degay qur-aanka maka ku soo degay oo dhami wuxuunbuu tilmaamayay in diinta tan alle makansiinayo oo ay diintu guulaysanayso yacni mabda-u inuu guulaysanayo laakiin fii xayaatihim ama iyagu intay nool yihiin saxaabada tani inay diintu guulaysanayso qur-aankii ku soo degay maka oo dhami muu tilmaamayn bal ee waxaa soo degaysay buu leeyahay in nebiga lagu lahaa waimaa nuriyannaka bacda aladii naciduhum yacni in ilaahay ilaha subxaana wa tacaala inaanu ku tusinno haddaanu ku tusinno waxyaabaha aanu kuu yaboohayno iyo haddaanu ku hoofsannaba baa ilaahay leeyahy kaanamaa loo tilmaamaya in labaduba suurtagal yihin waxaan leenahay nebigu calayhi salaatu wasalaam qaacida buu rabeeyey rijaal buu rabeeyey rijaal noqday maxay tiirarkii ay ummaddu isku taagtay gurigan markaad dhisayso gurigu wuxuu ka kooban yahay leban iyo jaajuur iyo wax la mid ah iyo shub iyo sabad haddaad leban iyo jaajuur guri dheer oo dabaq oo dhowr dabaqaad tidhaahda ka samee markaad in seeska hoose soo wadee halka maraysaba inta sare markaad tidhaahdo saar ayuunbuu dumaya lanhaar albunyaan waa inuu dumaa markaad saartaba laakiin haddii billariska loo taago marka hore hadduu billaris helo kaabadaha haddaad u adkayso oo injineer khabiiriintu helo kaabada u dhiso oo sabadda u shubo oo sabadda dhammeeyo oo guriga dhismihiisii uu taago isagoo noocaasiya kadibna jaajuurka iyo dhoobada iyo waxa loo baahan yahay hareeraha kaga dhiso markaana gurigu wuu taagnaanaya idan nebigu calayhi salaatu wasalaam billariskay ummaddu ku taagnayd buu tarbiyeynayay markii hore wuxuu isku dayayay inuu qaacida u helo ardiyo ay ka duuli karaan dhul inay helaan horta ay degaan oo sultadiisa helaan oo ku xoogaystaan oo tamar yeeshaan kadibna inay halkaasi difaacaan oo dhiciyaan kadibna ay diinta ka duulaan oo wax ka qabtaan waxaan leeyahay akhi fillaah wuxuu tarbiyeeyey dadka nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaa iyo ay ka garteen faclam annahu laa ilaaha ila allah واstغfir لdنbka وlلmؤminiin ilaa iyo ay cilmi u yeesheen laa ilaaha ila اllahu muxamadu rasuul الlah iyo waxay tilmaamaysay oo dhan ilaa iyo ay soo baxday qaacidadii islaamiga ee loo baahnaa waxay leenahay arrintu ma aha degdegtaa moodaysaan wax kuma dhismaan cumru shucuub iyo cumru linsaan waa laba haddaad cimrigaaga ku qiimayso shacabka waa wax qaldanoo tidhaa 20 sano joogno 50 sannadood baanu taagnayna may dowlada dhalata haddaad sila soo taag cumru shucuub iyo cumru lumam waa wax kala nooca ummaduhu maalin qurhana ma dumaan ee sida geedka xarku u gale maalinba inuu soo cunabo maalinba inu soo socotaa markaan u dambaysay habashka ay tidhaahdo waa maraan waxba ka taagnayn ummaduhu maalinna kuma dhismaan oo inta maalin un qole tadbiir yar samayso dhag wax ka siiso wax waliba ma sallaxmaan ee cumriga ummaddu uu ka gedisay ummaduhu waa wax daday u daalaan oo u soo jeedaan oo u fakeraan oo in badan u xiiqaan oo dabeetana jiilba jiil u dhiibo ilaa iyo ay gaadho xooggeeda iyo mataanteeda horumarka yurub yaaliya waxa kane maalin inta la fakeruun iskama dhalan ee rag baa rag u dhiibay oo isgaadhsiiyey ilaa iyo xoogga kaniintu inta ka leekaanaya waxaan leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamaya qul haadihi sabiilii adcuu ila allah calaa basiira kaasi buu nebigu yidhi waa ilaahay jidkiisii laakiin adcuu calaa basiira laabudda min basiira xamaasku yoyna qaadin xamaaska shabaabnimo yoyna qaadin laabudda min basiira inay meesha jirto daashe wakti badanna waa fadhideen malaa ilaa maanta o dhan waa soo fadhideen baan rajaynaya hadalka badanina inta hore intiisa dambe ilowsiinaysa waxyaabaan ku socdayna igama dhadhawa haddaad dul qaadan kari weydaan tilmaamaan joojiye mase dhammaanaysaan u malaynaya inay idinku joojisaan mooyaane
waayo ummad masiirkeed ayaanan rabin inay cayaar ku dunto. caalam alislaami dimuqraadiyad baa laga galay iyada ay xaraka alislaamiya tahay jaanibka daciifka ah ama aqaliyada ay tahay baarlamaanka. dimuqraadiyad baa la galay iyadoo ay aqlabiye yar leeday, yani iyadoo ay aqaliyada tahay masar iyo meelo badan bay ka dhacday, iyadoo ay aqlabiyad yar leeday urdun iyo meelo badan bay ka dhacday, iyadoo maxay ay leedahay aqlabiya saaxiqa algeria ka dhacday. haddii aan ka warramay dimuqraadiyad iyo inqilaab, waan idhi in shacabkani xad gaadho u bislaado mooyaane ma suurtagal aha inay iyagu noqdaan wasiilada u dambaysa ee dadka ka lagu taago darfiga aynu hadda joogno. aan malaa jihaadkana u eecda haddaba. jihaadka xaraka alislaamiya dhul badan bay ka jihaaday. shabaabka maskaxdooda malaka u dambeeyuun baaba ku qafilan ee afghanistan, laakiin meelo badan baa laga jihaaday. hadday tahay wakhtiyadii isticmaarka iyo kuwii la soo jihaaday, cumar almukhtaar, ibnu badiis iyo raggii la halmaalay, hadday tahay kuwii ka dambeeyey falastiin ka dhacay oo ay dagaalameen xaraka alislaamiya iyadoo ku hoos jirta qiyaado ka sarraysa oo dowladnimo, ayay yeesheen katiibadoodii dagaalamaysay. xaraka alislaamiya waxay kaloo dagaalameen iyagoo keligood gaar u baxay oo yidhi duwalna cidna hoosgelmayna waanu diriraynaa, sidii suuriya ka dhacday. xaraka alislaamiya way dagaalantay iyadoo shacabka qiyaadadiisuun matelaysa, laakiin aan dagaalka keligeed gelin, sidii afghanistan ka dhacday. maxaa u dhexeeya dagaaladay gashay? intaanan taa sharxin waxaa u dhexeeya dagaalka afghanistan muxuu u guulaystay ee kii suuriya u guulaysan waayey ama kii falastiin u guulaysan waayey, amase maxaa ay cilmaaniyiin uga daba timi xarakaadkii islaamiga ee taxaruriga ahaa ee wada jihaade ingiriis iyo mustacmar oo dhan kiciyey? maxaa keenay inta la jihaado oo gaal la kiciyo in waaxid cilmaanun haddana dawladda u qabsaday? sidii xarakaadkii taxaruriga dhammaanteed caalam alislaami ma cilmaaniyiin baa xoraysay baa u malaynaysaan? dad muslimiina xoreeyey oo bale jihaatamay oo naf iyo maalba u huray, laakiin midhahoodii waxaa goostay cilmaaniyiin. markay gaar u baxeen ay yidhaahdeen koox oo dhan inaga saarana way dagaalameen, laakiin xaq baa loo leeyahay in la aamusiiyo. waxaan ku soo koobayaa weedha tan leeyahay anoo wakti u holo gaaray ku macaanaan lahayd, laakiin aan soo koobo. haddaynu nolosha dib u kulanno waa laga yaabaa iyadoo ballaadhan aynu ka wada hadalleen. waxaan leeyahay waxaa kala nooca in shay aa u fiirsataan. marka hore, jihaadka maxaa la yidhaahdaa? yaa lala jihaadaa? yaa loo jihaadaa? maxaa loo jihaadaa? goormaa la jihaadaa? waa su-aalo u baahan in la isweydiiyo. aljihaad waa kelimo aada u macno badan. duuduub ahaan kelimatu ljihaad waa badlu ljuhdi fii sabiili اllah, waa ilaahay dartii oo loo bixiyo juhdigaag oo dhan aada u bixiso. mar hadduu noocayay wuu tiro badan yihi. ibnu اlqayim aljawsi fii zaadih ayaa wuxuu ku leeyay kitaabka jihaadkii iyo ghazawaadkii nebiga markuu ka warramayo 13 nooc buu jihaadku u qaybsamaa buu yidhi. markaasuu wuxuu ku bilaabay aayadda qur'aan ee ilaahay leeyahy walow shi'naa labacatnaa fii kulli qaryatin nadiira falaa tuطici اlkaafiriin wajaahidhum bihi jihaadan kabiira.
intuu ku bilaabay aayaddaasi ayuu 13 qaybood u qaybiyey. markuu 13 qaybood u qaybiyey ayuu yidhi 13 martabadoodba nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka dagaal galay buu yidhi. saa daraaddeed buu u yahay buu leeyahay afdal mujaahid. dabeetana intuu soo waday buu yidhi fahaadihi 13 martaba min aljihaad waman maata walam yagzu walam yuxadith nafsahu bilgazw maata calaa shucbatin min annifaaq. waa 13 buu yidhi ninka 13kaa midna geli waayey ee naftiisa ugu warrami waayey inay gasho ee geeriyooday buu yidhi wuxuu ku geeriyooday shucba min annifaaq. waxay isweydiinta le laakiin alcaalim maxamed nuur qawi asheekh الsoomaali oo su-aalahan ka jawaabaya wuxuu yidhi jihaadku buu yidhi fii kulli xaalaatih. nebiga calayhi salaatu wasalaam maraatib buu soo maray buu leeyahy. mar la ogolaa, mar la diidanaa, mar la ogolaa, mar la amray iyo mar la waajib yeelo la yidhi cid walba la dagaalamo cid badan inta loo tilmaamay. wuxuu yidhi jihaadku xaalaadkiisa marka cumuuman muslimiinta oo dhan lagu oga fii kulli xaalaatihi waa fard ee wuxuunbuu u qaybsamaa maruu fardu kifaaya yahay iyo maruu fardu cayn yahay. laakiin wuxuu yidhi jihaadku muqawamaat buu u baahan yaho ka horeeya. muqawamaadka jihaadku uu u baahan yahy waxaa u horeysa buu yidhi hijrat alqalb, ama in dadka iimaan lagu tarbiyeeyo, ama binaa'i alqaacida asulba maa yusamiihi ibni qutb sayidkii iyo maxamed ilaahay u naxariista labadoodabe. waxa uu tilmaamaya qaacida sulba oo la helo mooyaane inaan la jihaatamin. dabeetana wuxuu yidhi hijra jasadiya baa ku xigta buu leeyahy oo ah in la helo qaacido dhuleed oo laga dagaal galo. nebigu marka hore intaanu dagaal gelin wuxuu takwiiniyey dowladdiisi iyo wixiisii ama qaacido dhuleed oo uu ka intilaaqi kalu helay. haaniyan saddexaad buu yidhi waxaa loo baahanyay mujtamacii iyo dhulkii marka la ysla helo in tadriibaadkii caskariga iyo wixii loo baahnaa lala yimaado. yaa lala dirirayaa buu yidhi qur-aankun baan akhrinayaa buu yidhi waqaatilu lmushrikiina kaafa kamaa yuqaatiluunakum kaafa qaatilu aladiina laa yuuminuuna biاllahi walaa biاlyawmi alaakhir walaa yuxarimuuna maa xarama allahu warasuuluh walaa yadiinuuna diina alxaqi min aladiina uutuu lkitaaba xataa yucطuu ljizya can yadin wahum saagiruun yaa ayuha aladiina aamanuu qaatilu aladiina yaaluunakum min alkufaar walyajiduu fiikum gilda. alkufaar wa ahli lkitaab wاlmushrikuun saddexdaa qoluu qur-aanku tilmaamay. ama almunaafiqiin qaab kaloo loola dagaalamaabuu iyagana qur-aanku tilmaamay. waa qitaalkanaan ka warramaya jihaad oo dhan maaha, alqitaalu fii sabiili illah. dabeetana intuu soo waday buu wuxuu yidhi shucuubta maanta muslimka ah buu yidhi waa jahala, bayinana kuma dulqumin, dadkuna may gaadhin inay bayinadii gaadhsiiyaan. waa muslimuun jahala buu yidhi saddexdaa midna ma galaan, dabeetana lala diriri maayo. kaasi waa ra'yigii callaama maxamed qawi, waxba kuma darsan anugu. callaama shariif cabdinuur wuxuu leeyahy ra'yi kaa la mida. markaan ka imaado alqadaaya alfiqhiya waxaan u baahnaa inaan ka warramo masaa'il ka gedisan waxaasoo dhan, waayo fiqiga waynu murmaynaaye inaan meel kale wax idinka tusiyaa baan doonaya. idan waxaan rabay inaan idin tusiyo althawaabit walmutagayiraati fi ljihaad alislaamiy. maxaa haabita jihaadka islaamiga oo aan bannaanayn in marnaba hoos looga dhaco ama si aan laga tegin? maxaase mutagayiroo ijtihaadka aqbala oo aan si kale ay suurtoobi karta? mise waxa weeyaan jihaadku qori qaad oo faranta hore un istaag? ma jira wax haabit oo aan diinta ogolayn inaad dib uga dhacda? mase jira wax mutagayir oo waxyaabo badan xamila? waktigaan haystaa iguma filla, saa daraaddeed ma rabo inaan mawduuca iminka galo. laakiin cumuuman waxaan leeyahay tajribada caalamulislaami ka dhacday waxaa faraqa u dhaxeeya ugu weynuuyey midna ummad baa dagaalantay, midna xarakaa dagaalantay. fii suuriya xarakaa dagaalantay, xumaah wixii ka dhacayna waa ogti. fii afghanistan xaraka may dagaalamayna way hogaamisay, shacab baa dagaalamay. shacabka
ilaahay khayr siiye waa lay kordhiyey laakiin idinku may kordhiseen waxaan leeyahay aan soo duubo warkayga oo dhan aan isku darsado jihaadku waa darwatu sanaami alislaam camalka jihaadigiina waa nihaayat almataaf بالنسبة لجميع الجهود الرامية إلى نصرة الإسلام وماشى وقدم بيسه جهود اللي يسوق جينا إن لو جرجارة إسلام كيا حكومة إسلامية لو قدوا ضدك علك إسلام كواهنا بوسكو ده أنت كوب بنيان كورن ما ينفضل تاه سويت بعد شو جيسه أنت مرلو ده فضل بلادك على يد الناس كده يحكمك أنا ده بتنفض عشان الدولة الإسلامية دكتان تاي ده هو فكري لكن waxaynu leenahay in kasto amalka siyaasiga ah masaalix badan uu muujin karo mafaasid badan uu faydi karo inhiyaaraat badan oo lagu dhici lahna uu ka badbaadin karo dawladda islaamiga aynu raadinayna xoog muslimo u diriro ay hesho mooyaane dhismi mayso jihaadna wuxuu ku gabagaboobaa marka xoogga loo helay waqtigeeda ay tagto an-nasr aw ash-shahada ilaahina wuxuu leeyahay ya ayuha alladhina aamanu hal adullukum ala tijaratin tunjiikum min adhabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun waxaan leenahay jihaadku markuu martabada leeyahay thawaabit iyo mutaghayirat buu leeyahay wax sugan oo aan isbedelin iyo wax isbedbedela buu leeyahay wax loo baahan yahay in badan laga fakaro iyo wax qasab oo in la sameeyo buu leeyahay haddii laga tago watan shalay soo tilmaamay jus kamida islaamka waxa ka ratibma xadiith al-ciina iyo aayaadka quraanka waa taradin tilmaamay waxaan leeyahay marka tawaabida jihaadka islaamiga ama dagaalka tawaabidiisa waxa kamida مثلا مسائل المسلمين توين بدنا ما الشباب كدلي شدان سلف في أئمة دم وحي سكوا فقصنته أحكام الإسلام كي واجب كعدة ديدن لا دقال ما إلا يحق ونقنيا ساسي وحكوكم تماي بيرهدان إجماع الصحابة دقال كيلو قاضي مانع دتك الزكاة ديدي يقول لكن سلف كيسكو خلاف سيء ما كونهم كفرة مش كونهم يعني إن ديدان حكم إسلامي يعني قسم بغات أيهين وكله مي قالوا بين مش مي قالوا بين ومسألة يعني اختلفوا كتير لكن إن الله قال ما إجماع باكو قنطمي ساد ردد بحافظك ابن حجر مركو شرح يوح لي أولا بخارى باب وحو قدقيا باب قتال من أبى قبول الفرائض وما نسب إلى الردة وباب قتال لكن باب قتال من أبى قبول الفرائض وما نسب إلى الردة إلا لا قال الله kuwa diidan faradka iyo wixii loo nisbeeyay ridaa buu ibn Hajar markuu sharxayna wuxuu yiri ay jawaazu qatl man imtana'a min iltizam al-ahkam al-wajiba wal-amal biha imam malik fi muwatta'i wuxuu ku leeyahay al-amru indana fi man mana'a fariida min fara'id Allah ta'ala falam yastati' al-muslimuna akhdaha minhu kana haqqan alayhim jihad ibn Taymiyyah wuxuu leeyahay كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها باتفاق أئمة المسلمين قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله لكن وحي الله أنه وحي كان وحي أباهن طهي استيفاء الشروط الشرعية إن الشروط هذا الشرع قاوضت تقال لنا كليا ماها شروط هذا الشرع قاوين وضطه وايو أدوكم مشرك صوبا بحي لما قال لهم يسيدون مشركين يا مسلمين لا بك للسعمين حركة الإسلامية مانتك يكون نوشينا ما هاتوا النبي قول الله ولا جماعة النبي قول عدة يمتلي سنة أدوكم ما تشد جماعة النبي قول حيا جماعة المسلمين أدوكم سي جماعة من المسلمين بات مسلم كلمة شرين النبي قال وحي مسلم هذا ميساقي لا سعودي وحي قال إن الدم بيتشوقين لكن هذا حتى طائفة من الطوائف الإسلامية كوحي رقم إذا مسلمين
waxa jooga kuwa kooxo kale oo muslimiin oo faahimiina iyo kooxo kale oo muslimiin oo jaahiliina labaduba way joogaan cidda ka soo horeysa gaalada ama ahli alcaqaa'idka yani cilmaaniinta waa kafara waa ahli alcaqaa'id laakiin ahli alcaqaa'idka waxaa ka soo horeeya daa'ifo kaloo jahala min ashacaba muslimuun ah laakiin waa daa'ifa jaahilka ah islaamka uu ku gabanayo cilmaanigu can jahlin buu adigii islaamka sheeganaya qoorta kaaga goynayo isagoo raacaya mid kaloo munaafaqa haddana wuxuu ku leeyahay kani waa munaafaqo nin fiican maaha hadda maxaad ka kale u dilaysa hadduu kana munaafaqa maxaad muslimka ugu helin weyde munaafiqnimadiisana yani jahligiisu xadkaasuu gaadhay qabinimadiisa inuu waaxid munaafaqa kaa raaco isagoo maxay adigu aad kii muslimkee saxaa tahay idan waxaan idinkula talinayaa nusuusta calaa iطlaaqiha inaydan u istidlaalin ee inaad duruufta iyo zamaanka iyo makaanka iyo dadka iyo bii'ada wax badan u fiirsataan nusuus ilfuqahaa hadday tay oo shabaabku markay rabaan inay xujo ka urursadaan ibnu taymiya ibnu lqayim ibnu xajar xafaadda ay soo ururiyaan aqwaashooda laakiin aan la soo raacin wadcigay ku yidhaahdeen wadcigii ay ku yidhaahdeen iyo darfigay waxa kani jireen waa kala nooc iyo wadcigaad adigu rabto inaad ku dabaqdo waanigii shalay tilmaamayay qowlka sheekhu haddii waktigiisa la dhaafiyo iyo meeshiisa inay isaga laftiisa ka ratimi karto mashaakil tiro badan waxaan leeyahay markaasi asalku wuxuu yihi iraaqatu dimaa dhiigga daadintiisu waa amrun cadiimun fi lislaam waa arrin aada u weyn waxaa taqaanin inaynu mujtamac islaamka u nisbo sheegto laakiin jaahiliina dhex soconno waxaa muhima markaasi inaad taxaquqdo oo iska hubiso kanaad nafta ka goynaysaa inuu yahay kii xaq mudnaa in nafta laga jaro inuu yahay waa inaad hubtaa wailaa shareecada islaamiga waxay tilmaamaysaa xuduudda in shubahaadka lagu rafciyo yani inaad hadday shubahaad jiraan meesha inaad xuduud la soo roori karin oo aanad oofin karin idan waa inaad iska hubtaa islaamkii waa maqan yihi in loo dhinto naf iyo maal loo huraana shaksiyan waa wasiiladan ku qanacsanay laakiin bii'adaad la nooshay iyo meeshaad maaxaysaa ma aha meel kala soocantoo gaal iyo muslim layay ma aha gaal iyo muslim ee waxa weeyaan meel walaaqan waxaabay u egtay malaa xadiidkii nebiga laga warinayey ee tilmaamayay wakti in la gaari doono inay subaxaysan doonaan iyagoo islaam oo galabaysan doonaan iyagoo galo wahluma jara waxaan leeyahay hadday shubha jirto qofka xaq looguma le in la dilo shubhadaasi xataa hadday tahay shubahaad fudud ama shubha jahliya xataa hadday tahay maalan ibnu taymiya wuxuu ku tilmaamaya jahamiyada inuu ugu cudur daarayo low qultu biqawlikum lakafart walakinii laa ukafirukum liannakum tajhaluun waxaa leedihin haddaan anigu idhaahda buu yihi waxaana ku hadlaysaan waa gaalnimo haddaan idinkaga daba hadlo waan gaaloobaya laakiin idinku jahli baa idin haysta buu leeyahy ibnu lqayim ayaa la yidhi war kuwan xabaalaha baryaya ma la gaalaysiinaya markaasuu yidhi laa nukafiruhum lijahlihim waa ibnu lqayim ayaa la yidhi war kuwan xabaalaha nuquusha waxaan ka soo qaaday cabdalla cazaam fii ixdaa kutubi kuwan bay yidhaahdeen istiqaasaadka la imanaya xabaalaha baryaya ma la gaalaysiinaya markaasuu yihi laa nukafiruhum lijahlihim ibnu cabdiwahaab ayaa waxaa la yidhi dadkan caabudo qubat lkawaasi ma la gaalaysiinaya laa nukafiruhum liqilati man yucallimuhum buu yidhi gaalaysiin mayno waxa ku yar cidda wax barta shaykhuna shariif cabdinuur oo aan rumaysnay inuu yahay ninka u qalmo maanta soomaaliya iftaa oo aan ka cilmi yarayn culimmada maanta fatwoota laakiin soomaaliga ninka ahay cid kama dhalan ayaa wuxuu yidhi iyadoo asila noocaasiyo la weydiinayo ayuu wuxuu ku tilmaamayaa dadka soomaaliyeed oo kale maalan buu yidhi jahli baa ku sugan jahliga ku sugani buu yidhi waa mid aan ugu cudur daarayno xaraka alislaamiyana may gaadhin weli inay bayinada ku dul sugto dadka kan ama bayino rasmiya kuma dul sugmin dadkan lidaalik buu yidhi waxaan ka cabsanayaa inaad gashaan haddaad laysaan man xamala calayna silaaxa falaysa mina waa qowlkii maxay shariif cabdinuur isagaan u nisbeeyey cajladiisa oo duubanna waan idin hayaa haddaa u baahantihi codkiisiiya waxaan leeyahay
dadkaynu dhex soconnaa maaha dad kala miirmo gaaliyo islaam u kala miirmay ee waxaynu dhex soconnaa maxay dad tukanayo haddana ku tooganaya ilaahay buu u fooraraa dee waxaan ma bilaash buu la forfoorsanayaa bay kula tahay macid buu istusaya maaduu xoolo kaa doonaya maya waa iimaan ku jira waxaan keenay masaajidkee u la tukanaya haddana aduu ku dilaya yaa ka seexdee ninkan xadkan gaadhsiiyey waataan shalayta idiin sheegayey ninkan xabsiga uu wax ugu akrinaya lahaa labadiinuba qur-aan baa sheegtaane qur-aanka sheekha weyn baanu qaadanaynaa buu yidhi ee wuxuun baan kaa ballan qaadaya markaan ana qur-aankan wax ka ogaado inaan aniga iyo kitaabka noo kala warramin waxaan leeyahay istayfaa asharciya waa inuu la yimaadaa dagaalkaasi hortii idinkuma diidani in noocaasoo dhan lala dagaalamayo culimmadu sheegaysay laakiin waa inuu wataa maxay waxyaabihii shareecadu ay u jidaysay waa inuu wataa shareecada waxaa ka mida bay culimmadu leeyihin cadamu lidraari bilumma inaanu keenin waxaa ka mida bay yidhaahdaan inuu makhsuus ku yahay gaalada u fiirso culamaa ilfiqi waxaa aragteen iyagoo ka warramaya hadday gaaladu intay muslimiin soo qabtaan ay tursi ka dhigtaan ay ka dhigtaan gaashaan ay ka dhigtaan maxaa laga yeelaya oo in badan leeyihin hujuum lagu qaadi maayo waa gaaladii muslimka shelter ka dhigtay shield bay ka dhig human shieldka waxay ku magacaabaan hadday ka dhigtaan muslimiin maxaa la yeelaya waa masaa'il fiqiyo ay fuqahadu yacni si fiican uga warranto hada alxad markay joogto bal shacab dhan ka warran oo wax walba isugu jira waxaan leeyahay jihaadka waxyaabuu u baahan yahay waxaa ka mid ah salaamati raaya raayada lagu hoos dagaalamaya inay tahay mid islaamnimo ka muuqato raaya taxta raaya camiya inaan dagaalka lagu gelin raaya casabiya aw qawmiya aw wixii la mida inaan dagaalka lagu hoos gelin man qutila taxta raayatin camiya yansur ilcasabiya wayaqdib lilcasabiya faqatlatuhu jaahiliya buu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam alxadiid haabit ninka kaasi ku hoos dagaalama inuu dilkiisu jaahili yahay buu nebigu ku tilmaamaya waxaan leeyahay waxyaabaha culimmadu ay leeyihin sharciga ay u baahan tahay waxaa ka mid ah halabat almaslaxa halabat almaslaxa u fiirso tacbiirkan acmaasha jihaadigii maaha acmaal intixaariya maxaa la yidhaha acmaal nafska qabashaa shahaado qura maaha waxaa la doonaya maaha aan dagaalka galloo ku dhimano shahaado hella maaha waxba cid kale harabshina kelimatu xaq baa lagu geeriyoodaa shahiidnimo aad ku helaysaa hadday shahaado un tahay xaqa ha qarinina adigu xaq ula taagno midku dila waayi mayside hadaad shahaado doonayso waxaad raadinaysaa shahaado ay tahay xaqu yuu kaa libdhina dabada hay midku dila waayi maysid ama waad ku dhiman ama waad ku guulaysano meeshii baad gaadhaysaaye laakiin shahaado qura maaha maslaxaa jirta jihaadka loo waajibay maxaa loo yidhi nafta ha la gooyo islaamku nafaa aad buu u qiimaysiiyey naftu waa wax aada ugu qiimo weyn islaamka maxaa islaamku u leeyahy naftu ha go'do ama taadan aad goynayso ama tan gaalkee la dilayo ilan dad badan baa meeshan ku lee'anaya maxaa nafta loo ogolaaday inay go'do waa in maslaxa jirtaa ka dambayso waxa kane uu xaqiijinayo masaalixda maxaa ka mid ah idhaari diin baa ka mid ah inay diintu kor ku noqonayso hadday ku cidhib tirmayso ka waran waxaa ka mid ah ba'si alkaafiriin in lagu celinayo hadduu noqonayo inay kusii kibrayaan ka waran oo ay kuu helayaan un sababe aan iyaga waxba laga dhibayn waxaa ka mid ah addafcu can almustadcafiin in la difaaco dadka muslimiinta ee mustadcafiinta ee la laynayo maxaa u daliila ilaahay wuxuu leeyahy waqaatiluuhum xataa laa takuna fitna wayakuuna addiinu kulluhu lilah idhaari ddiin waa inuu jira waa hadaf loo dagaalamo man qaatala litakuna kalimat اllahi hiya alculya waa hadaf loo dagaalamo faqaatiluu fi sabiili اllahi la tukallafu ila nafsak waxarid اlmu'miniin casى allahu an yakufa ba'sa aladiina kafaruu casى allahu an yakufa ba'sa aladiina kafaruu waa hadaf loo dagaalamo wma lakum la tuqaatiluuna fi sabiili اllahi wاlmustadcafiina min alrijaali wاlnisaءi wاlwildaan waa hadaf loo dagaalamo idan jihaadku waa inuu masaalixdiisii xaqiijinaya waa inuu istimraariyadiisii muuqanaysaa
mana aha jihaadku wax jawla iyo jawlatayn ku dhammaanaya waxay dhahdaan masaalixda waxaa kaloo ka mida tawaqici dafr waxaa ka mida bay dhaheen ta'miin daraari adducafaa waalmuslimiin in kastoo waxa maslaxada la yidhahdo qiyaaskeeda la ysku khilaafi karo yacni maslaxada maxaa lagu miisaamaya see loo qiimaynaya see loo qiyaasaya in waxa kani ka ratibmayaan iyo inaanay ka ratimayn waa masale ijtihaadiya laakiin inuu hadafkaasi yahay waxa loo diriraya waa min ahdaafi iljihaad buu ka mid yahay waxaan leeyahay akhwatii fi illaah waxa u baahan in la ogaado jihaadka waxyaabaha haabitka kuwaan sheego dhan baa ka mid ah waxaa kaloo waxyaabaha haabitka ka mid a taxta wilaaya caama in lagu dagaalamo inuu amiir jiro lilislaam aw lilmuslimiin ibnu qudaama raximah llah wuxuu leeyahy waamru ljihaadi mawkuulun ila alimaami waijtihaadih haddii se imaam la waayo bay leeyihin weliba wuxuu leeyahy wayalzim iracya taacatahu fima yaraahu min dalik laakiin haddii imaam la waayo oo zamaan uu dhaco ay timaado sulطaanku inuu ka baxo asulطaani sharci in la waayo umuurtu waxay mawkuul u tahay bay dhahay ilaa ahli اlxalli waalcaqd ama dadka muslimiintae ra'yiga iyo cilmiga iyo caqliga u saaxiibka ah jihaadku wuxuu leeyahay umuur mutagayira haddaba tawaabidii waa kuwan sheegay arrin baa jirta mutagayira oo kolba si xamisha icdaad ilcudda baa ka mid ah waacidduu lahum ma اstaطactum min quwa icdaad ilcudda ilaahay aayadda ka horaysa wuxuu ku leeyahy ha u malaynina gaalo inay baxsanayaan waa aayadda hore gaaladu inay ilaahay ka baxsanayaan ha u malaynina baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacala waa qaban karaynaa laakiin haddana ilaahay wuxuu leeyahy waacidduu lahum ma اstaطactum min quwa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamayaa in loo diyaariyo awood lagula dagaalami karo dadka kan waxaa ka mida waxyaabaha mutagayiraadka ah ee isbedbedeli kara ma icdaad ilcudda hawaabiddu ka mid yahay laakiin qiimaynteeda waxay ka mid tahay maxay mutagayiraadka icdaad ilcudda waa hawaabidda laakiin waxay ka mid tahay qiimaynteeda mutagayiraad ka mid a waxaa kaloo ka mida bay dhaha mutagayiraadka tartiib awlawiyaati almuwaajaha muwaajahada la samaynayo in tartiib lagu sameeyo oo ah ma cilmaaniyiintaan dagaal la gallaa ma yuhuudiya nasaaraan iska dhicinaa ma dadkan bidcoolayaasha iyo jahaladan iyo dadka noocana baan iska dhicinaa ilan islaam saafiya raadinaynaaye sidee baan cadowga u kala ratibnaa hadday acdaadu badan tahay kee baan horaysiinaa kee baan se dambaysiinaa mise mar quraan uu la wada dagaalana nebigu calayhi الsalaatu wasalaam mudaaraat buu la samayn jiray bacd اlitijaahaat aan isaga waafaqsanayn ama si kale haddaan u tilmaamo waxay culammadu leeyihin annafiir ilcaam markuu jira bay yidhaahdeen waa in xataa itijaahaadka bidciga ee khuraafiga ee jahligu haysta bay yidhaahdaan waa in lasoo dumaa lasoo kaxaystaa markay arrintu joogto nusra lidacwa alislaamiya ilaa taxkiimi shariica markay joogto yaquul alcallaama cabdalla cazaam raximah اllah jihaad shacbi muslim kitaabkiisa la yidhaha wuxuu ku leeyahy cabdalla cazaam ina jihaad shucuub gayra jihaadi اlfi'aati waasxaabi اdacwaat jihaadka shucuubtu wuu ka gedisayay buu yidhi jihaadka ay gasho ragga dacwada u saaxiibkaa iyo dadka cilmiga leh waayo buu yidhi jihaadka kuwani galaan waa dad yaroo safwo oo tirsan jihaadka qolada tan muslimiinta ee safwadee tirsani galaan buu yidhi istimraariya ma yeesho waa kelimaadkii cabdalla cazaam wuxuu leeyahy yakunuuna fi lgaalibi safwatin muntaqaatin mukhtaara waqad naaluu qisطa waafira min altarbiya wاltawjiih walakinahum laa yastatiicuuna muwaasalaةa xarbin طawiila amaama alquwa اlkubrى cabdalla cazaam baa wuxuu leeyahy fi'ada yare muslimka ama jamaacada yare islaamiga hadday dagaal gasho buu leeyahy waa dad yar oo tarbiyo gaara leh oo si fiican loo rabeeyo qimo taagan laakiin ma wadi karaan buu yidhi iyagu dagaalkooduyo ma sii socon karo amaama alquwa alkubrى
xoogaga waaweyn maanta jira buu yidhi dagaalkoodu ma sii socon karo kooxdaas biduuni iltifaafi shacbi xawlahum buu leeyahy haddii aan shacabku ku gadaanayn hadday iyagu qiyaadada noqdaan ama qimada yihiin laakiin shacabka ay wataan sida afghanistan ka dhacday hum alqiyaada laakiin shacabkii way dagaal geliyeen haddii aan shacabku ku gadaanayn buu leeyahy فالدعوة تكون كالصاعق الصغير الذي يفجر الكميات الضخمة من العبوات المتفجرة وعامة الشعب تجد فيه جهلا وأمية وغثاء وصفات وحلاي وحي أردق من بيري الصفوضة يرى إسلامي جاي وحي اللمدين بيري قرحيها بمك وين لقو حرية عبوات كالناسف كا ما المركة اللي قرحينا يا قرحية يربى لقلية قرحيه مركة وحو قرحية انتاسو منام انتاسو وحو ماشا كوكعة سيدوك لو حلو بهي بيري في أضيار مسلم كينا يددك كوه قامسو جهادك لكن شعبك وينو يوحن جهاتمية وحا كان كيعنا يا قرحية لكن شعبك مياد كوضا نيجي كرتين كوادير إسلامي والرسمي وضا النقضان هدي أنا تكو قاضنين قلق الله عيات وراه يوحي ليين وردان هدانت كسور دويسن إلا ان قالا يسهيسانه مركز وحو لي علامة عبد الله عزامي لها ونحارسته وأدمده دروس جهادي إنه فقيه هذا عصر كان يهي أي وحو لا يهي وعامة الشعب تجد فيه جهلا وأمية وغصاء وصفات ولكن لا بد منه ليتحمل أعباء الحرب المستعرة المستمرة وليواصل وقود المعركة شعب كأنتي سبدان بيقول واحد كي ليس جاهل نمو أمي نمو غصاء كغصاء السيل laakiin buu leeyay waxaasoo dhan isagoo wata waa inaynu tuurta ku xambaarnaa siduu shacabkaasi u xamilo dirirta holcamaysa inuu u babac dhigo shacabka waxaa wata buu leeyay waa inaan tuurta ku sidaa si uu u xamilo dirirtan holcamaysa inuu u babac dhigi karo fayakuunu fi shacab buu leeyay marka waa hadalkii cabdalla cazaam kaan idiin turjumaya shacabka markaa wuxuu ahaanayaa buu yidhi waxaa ka mid ahaanaya almujaahid الzani وشارب الخمر والسارق والغالي والفاسق والفاجر والمنافق ولا يمكن أن يخلو شعب من الشعوب من هذه شعب كان دقال قلين يبو لي عبد الله عزام وحكمد نقرأ يا مركاسي مجاهد لكن زنيستي خمري عب لكن إلهي درتي ودري ريا كنتو قيستي وهدر دررسان كو غالية كو فاسقية كو فاجرة بل المنافقين باكو ترتبوا ليه شعبك مع منافقين تيساسي سقوا أن وضبوا لي وين حركته حنبارتا يا دجال قلين كرتا وإلا الدجال قلين كرتا عدي مضنيد أولوية عدي لسينية ليس هي قالها هي كفرة هي علمانيين وحلاية هي عالم كاس ولا يمكن أن يخلو شعب من الشعوب من هذه ويكون في الشعب كذلك من يزاول الشرك الأصغر وبعضهم الشرك الأكبر عن جهل شعبka waxa kaloo kamida buu leeyahay qaar shirkiga yar la imanaya gaalnimada yar kufrun duuna kufr waxa kaloo kamida buu leeyahay qaar la imanaya ashirki al-akbar gaalnimada weyn yani afcaashiisa iyo aqwaashiisa waxa kamida wax diintaba lagaga bixi karo laakiin buu yiri can jahlin bay uga imanaysaa mooy rabaan dadkan inay diinta ka baxaan oo kuwan mintidkeen tukanaya soomaye waxa ka keenaya maxay diinta aanu xaqiiqadeedii barana aan loo sheegin إذن بدأ دتكم باكم إذا هيدا مركا حقيقة وقاتين باكا فقدان لا وحنه دبتنا وحلاي عبد الله عزام ومع هذا كله فيجب نصرهم ما داموا مسلمين ويجب القتال بجانبهم ما دام قتالهم لرفع الراية لا إله إلا الله أو لدفع الظلم عنهم عبد الله عزام وحلاي waxaasoo dhan oo jira buu leeyahay in kuwan loo gargaaro lala dirir galaa mar haddii ay weli islaamka ku sugan yihiin waa waajib buu yidhi haddii hadafkoodu yahay raayatu laa ilaaha illa allah inay kor u qaadaan ama se dulmi inay iska faydaan dabeetana wuxuu doonaya cabdalla cazaam hadalkiisaasi inuu taariikhda markhaati uga keeno walow raajacta taariikha alislaamiy lawajadta alqabaa'il alatii irtadat fi zamani sidiiq وارجعها سيف الله خالد بن وليد وحزم الصديق إلى الإسلام بإذن ربهم قد صيرها أبو بكر مباشرة لقتال الفرس والروم وحد هلي سابوا لي تاريخ ذا هداد النغطة وقت أبي بكر الصديق كوير الدوبي
ee diinta ka noqday ee lala dagaalamee laga xoog batay ee diinta ku soo celiyeen buu leeyahay xooggii go-aankii abibakar iyo qiyaadadii ku soo celisay ilaahay iidankiisa dabadii ayaa la dagaalgeliyo furus iyo shaamba wixii furtay iyagay ahaayeen buu leeyahay ahlu riddihii imika la soo celiyey ayuunbaa la hogaamiyo ciidankay ka mid ahaayeen buu leeyahay bariya galbeedba raggii furanayay markaasu wuxuu leeyahay waqad kaana mutanabbi waxaa ka mid ahaa buu leeyahay dadka kan kii nebiga sheegtay طulayxa ibnu lkhuwaylad ninkii nebiga markan sheeganayay طulayxa ibnu khuwaylad waa ninkii nebiga sheeganaya reer banu asad dagaal geliyo yidhi nebi baan ahay maxamed ka dambeeyey ee saxaabada la dagaalamayey ee kolba intuu ku soo noqdaan lalahaa war miyaan waxyi kugu soo degaynin nimankii dee wayna jebinayaane saynu yeellaa ee markii u dambeeyey intuu faraskiisa ka fuula yeelay yidhi wacyigii soo degay wuxuu sheegayaa saan yeelay ninkii yeeli kara yeel buu yidhi intuu cararay طulayxihii saa yeelay ee meesha tan ka dagaal gelayey qaadasiya raggii magaca ka lahaa buu ahaa isaga iyo camar ibnu qacqaac iyo raggii intayse soo taagaan mubaarasaadka lahaa allahu akbar mid qura markaan dilaha ku odhaninee soddon iyo noo qabta bay lahaayeen intaa raggii goobta ka muuqday waxay ahaayeen kuwii hadda nebiyada sheeganaya la soo jebiyey wuxuu leeyahay cazaam waxaa ku tusinaya buu yidhi qaadasiye lafteed canaasirtii baariska ka ahayd waxaa ka mida buu leeyahy abimaxjan waxaa khamru cabbay dabeetana waa la soo qabtay dagaal baa lagu jiraa dabeetana sacad ibnu abi waqaas saxaabigii la odhan jiray ilaahay raalliha ka haadee xabsigu ku riyey wuxuu yidhi ii xidha horta dagaalka galle waayo maxrakaa socota dagaalkiiyo soconaya ayuu saxaabi khamri cabbay weeyaan ayuu arkay meesha waxa ka soconaya dabeetana inuu dagaal tagaa buu rabay waanu xidhan yahay gabay buu tiriyey markaas uu ku calaacalaya yacni meesha rag isku hayaanaan cidlada fadhiyo uu calaacalaya sacad ibnu abi waqaas haweenaydiisii baa ka furtay markaa oo tidhi de haddaad dagaalamayso horad inta laga furay ninkii khamriga cabbee meesha ku xidhnaa buu galay waa taqaanin abimaxjan wuxuu ka dhigay qaadisiye iyo dagaalkeed waxaynu leenahay shacabka ayaa waxa la dagaalgeliyo sida daraaddeed waynaynu awlawiyaat u yeelnaa cidda aynu la dagaalamaynaa cidday tay haddaynu mar la wada dagaalami karayno oo jabahaadkao dhan aad mar qura isku qaadi karto falilaahi alxamd fa biha wa nicma te haddaad iska wada celin karayso laakiin ma jirtaa gaalo oo dhan oo joogta cilmaaniyiintiioo jooga tolkaayoo jaahiliin oo islaam sheeganaya intaasoo dhan ma iska wada celin kartaa mar maya wain awlawiyaat aljihaadiya waxay leeyihiin waa mutagayiraadka jihaadkay ka mid waxaa kaloo mutagayiraadka jihaadka ka mida baynu dhi in alitijaahaat albidciya bacdaha in mudaaraat lala sameeyo lasoo dhoweeyo sidaa daraaddeed buu ibnu taymiya wuxuu leeyahay wa hada alhajri in laga hijroodo ahlu fisqigan iyo bidcoolayaashan iyo waxa kan ka warran baa la yidhi wuxuu yidhi kuwan katagoodu wuxuu ku xidhan yahay biikhtilaafi alhaajiriina fii quwatihim wa ducfihim wa qilatihim wa kasratihim bay ku xidhan tahay buu yidhi kuwiinan hijroonaya buu yidhi xooggooda iyo badnidooda iyo yaraantooda iyo waxa kan bay ku xidhan tahay buu yidhi waayo hijrada waxa loo sameeyey lizajr inay dadkani waxan kaga fuqaan ibnu cuthaymiin ayaa wuxuu leeyahay in kaanat albidcatu mukafira hadday tahay bidcadu waxa waajiba buu leeyahay in maxay laga hijroodo laakiin bidcadu hadday duuna dalik tahay buu yidhi fainana natawaqaf fii hijri hadday bidcadu duuna alkufri tahay baa buu leeyahay waa ka tawaqufayna oo waa maxay in kaana fii hijrihi maslaxa facalnaah buu yidhi haddii ka hijroodkiisa ay maslaxa ku jirtana waa yeelaynaa wain lam yakun fiihi maslaxa ijtanabnaah buu yidhi ka hijroodkiisa haddaanay ku jirin maslaxana waa ka joogaynaa waalaslu buu leeyahy waalaslu fi lmu'mini taxriimu hajrihi asal waxaana mu'minka ku ah buu yidhi qofka mu'minka inaan laga hijroonin waayo nebigu wuxuu yidhi laa yaxilu lirajulin mu'minin an yahjura akhaahu fawqa halaath idan famaa baaluk adigoo ay haysaan gaalo dhammaanteed kii bidcada yar watay haddaad erid ayaa kugu soo hadhaya waa in nooc min almudaaraat la samayn karaa waxaynu leenahay nebigu calayhi salaatu wasalaam mudaaraa buu sameeyey alfikri siyaasi naadij marka la gaadho wax badan baa la arkaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu dagaal galay
yaa la dagaal galayay nebiga munaafiqiin baa la socotay uxud imase nin buu soo kaxaystay cabdillaahi ibnu ubay dagaalka uu dib uga soo celiyey markii muranka yari dhacay ama markii dagaalku 300 ثلث buu kaxaystay haadihi ثلث munaafiqan bay ka amar qaadanayeen daba socdeen cabdillaahi ibnu ubay ibnu saluul wuxuu sameeyey waa taqaanin waatuu lahaa samin kalbak yaakulak waa ninkii lahaa annaga iyo saxaabadan muhaajiriintan iyo nebi maxamed buu yidhi waxaanu isku nahay halkii carabta ay kaga mahmaahi jirtay buu yidhi samin kalbak yaakulak naaxi eygaaga ha ku cunee waa la quraysh baa soo eriyato intaanu soo dhoweynay ayay nagu xoogaysteen oo dabeetana annagii baynu cunayaan buu lahaa waa ninkii lahaa maxay layakhrijanna lacazu minha ladal ilaa aayaadka qur'aani soo degayeen ka sharafta lihi buu lahaa dulliyada ka saaray magaalada madiine isagoo nebi maxamed u jeeda haadihi kufriyaat bawaaxa haddana weedhahaasi markay cumar gaadheen muxuu cumar yidhi dicni yaa rasuul isii daa buu yidhi ilaahay rasuulkiisii oo igu fasax aan madaxa ka gooye igu fasax aan madaxa ka gooye buu yidhi nebigu muu odhan munaafiq maaha muu odhan in madaxa in laga gooyaa ma bannaana taas lagama wada hadlin ma jaa'is ma mise jaa'is maaha nebigu wuxuu tilmaamay fiqi siyaasi naadij ah ninkan wax kale uu ku daysanayaa inay jirto maxaad u malaynaysaa buu yidhi cumarow hadday dadku ku warramaan nebi maxamed saxaabadiisu laaya waa weedhu ugu jawaabay nebigu calayhi salaatu wasalaam cumar bin khataab ninkuu cumar leeyahay aan madaxa ka gooyo saxaabi maaha waa ninkaa wada garanaysaan waa cabdillaahi ibnu ubay ibnu saluul markaasuu nebiguna wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam maxaad u malaynaysaa cumarow hadday dadku isugu sheekayso yacni xataa wuxuu leeyahay dacaayaadka noocaasi iga faafaya daraaddeed ayaan waxaan u daynayaa munaafiqa kale inuu iska noolaado oo meesha joogo intaan joogo wax badan ka qaban kari maaye iyo inaan dilo dhibaatadu igaga tegayo ama dadka u cadhoonayo qabiil hawrac dad badan baa jira imika soo islaamo islaamkoodu iska daciifiyey dad badan baa jira u sayid u ahaade fii jaahiliyati wuxuu ahaa ninkay u sharxayeen ansaari markay heshiisyada wadagelayeen jaahiliyadoodii boqortooyaa loo sallaxayay inuu ansaar oo dhan isku qabsado aws iyo khasraj uu madax u noqdo dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu yimi ayaa waxaa dhacday ninkan boqortooyadiisii la waayey ninkan oo labadii qabiil intay dagaaladii ka soo baxeen ay heshiiyeen oo ay yidhahdeen aan madax samaysano oo cabdillaahi ibnu ubay boqortooyo u sharaxay oo la rabo in caana lagu shubo ama se la calamo saaro ayuunbaabuu nebigu soo galay madiina dee arrintiiba way isbedeshay ile nebi baa yimi dabeetana dowladdii islaamiga ahayd baa meeshii ka kawimatay cabdillaahi xiqdigaasuu hayo uu arkayo suldadii laga qaaday isagu diinta waxa ka indha tiray wuxuu lahaa kursiga laga xoog oo madiine taladeeduu doonayay dabeetana wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam cumar ibnu alkhataab maxaad u malaynaysaa hadday dadku ku sheekaystaan muxamed asxaabtiisuu laaya waa fiqhi siyaasi naadij waa awlawiyaadkaoo la kala horraysiinayo waa iyadoo la kala ogaanayo yaa lala dagaalamaya yaa se lala dagaalamay iyadoo la kala ogaanayo aan la odhanin war wuxuu ma bannaan yihin ha la sameeyo maaha ee ma bannaan yihin markaad tidhahda kadib waa inaad isweydiisaa ilan islaam kaamile meesha laguma hayo darfiga kan ma u cuntantaa mise uma cuntanto lidaalik bay culammadu waxay idhahdaan waxyaabaha karaahiyaadka iyo waxaasoo dhan adna alxaaja baa karaahiyadeeda rafcida bay yidhaahdaan waxaan leenahay idin xiijiya aan warkayga soo koobo laba shay baa muhima inay ogaataan ama se qof kastoo muslim uu ogaado haddaad tayka ku qanacsan can ariiqi siyaasa in dowladda laga gaari karo iyo dimuqraadiyadda haddaad tayka ku qanacsan in inqilaabaad la dabero oo dabeetana dowladda islaamiya lagu dhisi karo haddaad tayka ku qanacsan in jihaad la qaado oo jihaad wax lagu xoreeyo haddaad rumaysan tahay intuba inay suurtagal yihiin laakiin mid waliba darfigiisa uu suurtagal yihi waa dhacda dad qaar intaba rumaysan laakiin rumaysan mid waliba wakti uu ku haboon yahay inay jirto waayo waxaynu idhi jihaadku arrintaan idiin sheegaya waa qitaalkii jihaadku waxaynu idhi de waa 13 hadduu 13 martabadood iyo dhammaanteed waa jihaad mar haddii islaamka loogu nusraynayo ilaani kaa tahayba laba ogsoonown muxaadaradaydo dhan waxaan ku gebagabaynayaa laba qodob inaana garataan kow alqaacida sulba la-aanteed inaan dowlad islaamiya dhismaynin
qaacida adag oo islaamkan u gargaarta haddii baarlamaanka ku badataana marka la gelgelo dadka ka dhicin lahaa haddaad inqilaabtaana dadkii meesha tan u babacdhigi lahaa haddaad dagaalataana dadkii dadka u babacdhigi lahaa qaacidada caynkaasi oo la rabeeyo oo xad gaadha mooyaane dawlad islaamiya meel soke ka heli maysa qadiyadda labaad ee aan ku tilmaamaya waxay tahay quwada cidda aada la dagaalamayso inaad quwadeeda ogsoonaato cadowgaaga inaad garato cadowgaagu maalan soomaaliya markaynu ka fikerno cadowgaagu ma jabahaadkan yaryarba ma shacabkan jaahilkaaba ma dawladda soomaaliya ka dhisanba ma carabtan ku yaro xeeran ay xulafada leeyihinba ma OAU-da ma United Nationka ma kiristanka ma maraykanba cadowgaagu waa kuma kanaan kuu ogolayn inaad dawlad dhisato yani dagaalka waxa lagu galay koowaad waxaa ka mid ah ciidanku markuu dagaal galayo basaasiin buu dirtaa basaasiinta waxaa loo dirtaa oo dagaalka qodobkiisa koowaad ee muhiimkii waxa weeyaan inaad ogaato istitlaac ku samayso meeshan aad gelisay iyo waxa ka jira iyo cadowga ku jira iyo intuu leegay si aad u hesho meeshii darbadaad kaga dhufan lahayd oo uu dhiman lahaade taa macnaheedu waxa weeyaan markaad dawlad islaamiya doonayso ogsoonow gaal oo dhami inuu cadowgaa yahay yahuud oo dhan nasaaro oo dhan cilmaani oo dhan shuuci oo dhan cid rabta in dawlad islaamiya ka dhalato dunida ma jirto